كبردنا بايكا مقويسي بلنتينو واشق بلنتين واشقو بلنتينو واشق بلنتين واشقو soo siyaadinayo qofkan hor u sii wadi karo mise waa ganacsi aan waxba soo siyaadinayo iyo soo kala kogonaanshaha qofka iyo fikradda marka la tiraahdo fikrad baan haystaa oo aan doonayaa inaan fuliyo dad min waxa weeye waa wax ka aragtay suuqa oo aan ka jirin soo maaha baahina loo qabo marka presentationka waa inuu noqdaa mid kooban oo aad ugu sharaxdaan waa idin soo diray waxyaabaha ay tahay inaad maaragtay vision training aan ku soo diray waxyaabaha loo baahan yahay markii la sharaxayo oo aad soo gudbinaysaan qofkeen 5 daqiiqo u yeelanayaa 5 daqiiqo markuu dhameysto su'aal la weydiinayaa oo kiisaas ku dhamaanta marka qofka ku xigay noqonaysa hadii alla ma waana bilaabaynaa insha Allah horu u jiray marka waxaan rabaa ballaarin iyo waliba adugu taakulayn inta uu yahay laga si ballaariyo saasan u soo qaadanay walaalkiin baa jeedinay Maxamed Cabdi Qani waa ganacsadahaas inta yarkan baajka yarkana waa wataa bis taabo buugaalen business description keenu aba qeexitaankeena aba ganacsigeena asal ahaan ganacsi waa mid market kaas wuxuu ka furan yahay hadda ka furan yahay waa Garowe khaas ahaan xaafadda waa bari xaafadaas meesha ugu badan hadda magaalada shacabku u degan yahay inta badan dadka magaalada ugu danyar ay degan yihiin sidoo kale suuqu waa industry-giisu waa food retailer waxa la yiraahdo tafaariiq leh dhammaan wuxuu xoog saarayaa waa meel laga heli doono insha Allah qudaarta iyo dhammaan waxyaabaha xirxiraadka qaleylada la midka type-kiisuna waa partnership aniga iyo laba qof oo kale ayaa insha Allah baaleh ujeedooyinka ugu waaweyn oo aan doonayno waxa waaye koow service-ka badeecooyinka meesha yaala inaan ballaarino labo in maxaan ku yiraahdaa bulshada meesha degan ay waxyaabaha adeegyada u baahan yihiin oo adeegyo suuq ah oo supermarketada laga baahan yahay in meesha laga wada helo sidoo kale hadafyada waxa kamid ah in suuqa la ballaariyo iyo ugu dambeyntii isla tiyooro kala in mar walba cid u baahata meeshaas meel ballaaran oo weyn oo shaqaale badan leh oo furan noqoto abiyada kale suitskaas oo kale maxaan ku yiraahdaa sidoo kale waxaan ku soo darada oo meesha uu leeyahay waxyaabaha ciyaalada ku ciyaaraan oo kale meesha iyadana aan rabnaa sino the most important parts ka waxyaabahan food risk iyo raashimada marka qaybtan raashimada ma doonayno inaan dukaan weyn camal kala dhigno waxaan rabnaa waxa ugu badan inta badan xoog saarayno wax xirxiraadka isku bedelka lacagaha iyo birbiryada kale insha Allah our customer targets ka meesha aan ugu talagalay business-ka aan roon waxa waa households family meesha degan meheradaha meesha jooga oo dhinaca qudaarta aad xoog saarayna hoteelada meesha meheradahooda leh iyo dhammaan dadka meesha jooga iyo sidoo kale dadka habeenkii kale suuq inta baarabnimo furnaado dadka magaalada baadiyada gawaarida aad soo kale cid meesha ka adeeganaysa in adeeg ka hesho okay halka waxaan ku fiirinaynaa idea-dan asal ahaan waxaan meeshan ugu soo qaadanay oo business-ka meesha uga furnay iyo waxaan doonaynaa inaan xalino solving problem-ka meesha inoo noqon doono insha Allah oo business gap-ka meesha ku jira waan doonaynaa inaan xalku sameeyno marka horta markii soraba yaani meesha uu ku yaalo waxaan yiri kuma yaalin waxa la yiraahdo standard waxa la yiraahdo supermarket badan mini market oo suuq weyn oo adeegyada noocaas intaas kala bulshada ka heli karto ma jirto dhammaan dadku waxay soo aadaan magaalada la soo aada marka meesha u dhow hadii laga sameeyo isagoo ballaaran dadka waqti badan boosef garoobiya sidoo kale our problem solving kana waa kaas waa ma reduce wuxuu yareynaya soo aaditaanka dadka suuqa weyn ee injida soo aadayaan isagoo transportation-ki iyo waqtiga badnaa oo ka soo baxaya labadaba ay ka raadsanayaan oo suuqa dalka ku heli doona insha Allah market balanka habka aan suuqa doonayno business-kan ku galo koow markood waxaan doonaynaa suuqan la macaamilo oo si toos ah aan suuqa ugu gallo analysis iyo marka horreyntiis iyo wax aan ku jirno aan noqon dad ka baxsan waxa xog badan waxay hayaan sidoo kale aad waan xog u saar doonaa soo dhaweynta macaamiisha inaan dadka gacmo furan ku soo dhaweyno meesha dadka aan barno aad sidoo kale waxaan u doonaynaa in meesha loo sameeyo boorarkii dusha lagu xiro iyo leerarkooda dadku meesha la arko in loo sameeyo xayisiin iyo waliba dhinaca barayskana aan noqono kuwa aan kor ahayn oo suuqa la mid ah si dadku ay ugu soo hirtaan sidoo kale waxaan doonaynaa in suuq uu muddo badan furnaado
subax haddii la furo ilaa habeenkii 12 cid walba u baahan halka imaan karto aad meheradaha ugu muhiimsan qaybtan waa waxyaabaha aan leenahay waa fursad bay noo noqon karaan in uu hore u socdo iyo cid kale meesha timaadaba in tartankan ku gali karno waa adeega isku keena iyo badeecado kale adeegyada meesha xaafadda loo soo dhaweeyay xaafadda centerkeeda ku dhex yaalo sidoo kale promotion oo sameeyno iyo affordable prices this area oo managementiga ah qaybta managementigu insha Allah wuxuu yeelan doonaa inta badan waxa gacanta ku hayn doona aniga oo hawsha wadi doona laba shaqaalaan hadda ka shaqeeyaan shaqaalahaas waa shaqaalihii hawsha wadayay insha Allah xoog waxaan saareynaa in si fiican amar walba adeeg uu soo kala goyn oo gacanta u hayno insha Allah slide haray okay the final qaybta ugu dambeysay waa balaankayno waxyaabaha inta badan aan doonayno in hadda aan ballaarino oo xoog naloo saaro waa dhinaca sharabyada kale meeshu dhul weyn baan isnaa oo balbalo iyo guri iyo dhul badan iyo baakim far badan marka doonayna in xoog saarno dhulkan kala qaybsano sida sharabyo badan aan keeno geed qaleelkan aad u badan oo hadda nagu yar aan soo kordhino qudaarta oo kale shelfs badan u sameeyno ballaarino hilibkii oo kale meesha isku ku dhex jira kama maqna raashinka xirxiraadka badan iyo bagaashka wixii markaas sida caanayooga iyo waxaan ku yaraa wixii ku soconay suuqa si yar laga rabay this area waa intii ugu yareed marka sawirro waxba kuma soo darin 5 daqiiqo waxaan isir waa yiisan ka dhicin intaas ku tirtamaya hadii aan helno horta cash flow iyo lacagtii iyo hawlwadkii iyo adeegyadii faraha badan soo gadeen had aad nagu yar inoo kordhiyaan alaab badan baa meesha soo dhigayna adeeg service badan aan hayna meesha alaab badan aan hayna meesha waa keenina marka waxaan rajaynayaa hadii taas aan helno ku guuleysano in meesha noqoto meel weyn oo xaafadda ku filan كل بهدر أنت صاع سنة صدق كون بقول صدق كون إنك استودي واحد ماشي وبدأ قدار إيه واحد جوكت أي تهيل بكي قدار واحد ما نقص جوكت الصاع قضاء وأنا أقول في اللانس عميشة أدبو بدنت إلى حد وبدنت ساعات كمال أنت الصبح وعلى الفراء أدوك صلاة سمرك اللي تكذا إلى نور بقلقف بيمانية أبيك إلى كوبي تونك أبين horta inta badan ganacsiga kale oo suuq weyn horta meesha kuma yaal saan sheegayo kale ilaa xad saas oo kale aba furan inta badan xilligaas marka aan leenahay waqtiga badan oo furanayo ya waa bar wuxuu ka yaalaa kala wareeg meeshiis masuu dacwa dhinaciisa halkaas kala wareeg marka sidoo kale waxaan meel weyn oo wadooyin oo wada abu ku yaala dadku ay wada imaan karaan xaafadda u dhow maxaan ku raada wada leh oo dadku waxa biilka cidi marka saraaciso inta badan waxyaabaha baarika ma baaran waxyaabaha cagaarka ugu badan wax maalinta duu socon waayo laakiin qudaarta kale inta kale may cagaaradkaas wax ugu badan inta jirka waa cagaarka macaamiishu meeshaas macaamiishooda aad u badantay aad buu soo dhaweeyay macallimiinta wax cabasho ah hadda aw sanad bay furan tahay waxyaaba adeegyada qaar naga maqan way jiraan oo mararka qaar kood wuxuu naga kala go'a oo dalabaadka mararka qaar kood kale hadii gawaarida soo qaadayso kale inta badan baradhooda kale marmar yaanyada oo kale intaas laakiin waxyaaba kale oo dhan inta badan waa dad aad u qanacsan kirada korontada shaqaale jooga hadda inta isku filanta محمود absolutely حال ليجا حاجة شرعية لقفك وذاكان ساحة وذاكان شركة أنتو كريه هاي اللي العقل ساعة فيوتشر كون نقول البيزنس منك ايديا هذا اكسبشن بقى هذه وشغلوا مال قليل وبعدين شيء كله لك الشركة اللي وانا بحياة عوض بيقولون خلاص حاجة شرعية ودفاعية ثاني البيزنس هذا ويقولون على العقل حاجة شرعية markiis hore oo business-ka waxa ka dhigay sheerku waa aniga iyo gaban walaala family base horta gabigiisu marka waa dhamaan family waaye maamada sidoo kale nagu jirta inta badan caqabada dhinacaas wax khilaaf nagu badnaa waa wada family dadka dhan marka sharciyadu sharciga inta badan faa'iidada aba waxa markaas shaqaalaha ka baxsan 3 bilood meelahaas ku xisaabina wixii markaa soo baxa لكن ولي عد شير كاسي ولي شروطها كله ولي واحد بعد بدن وديك سنة لأن حديدات عن صدق هذا بلاد هاين
iyo akoonka oo kale oo sidoo kale wixii markii la geliyo kale laba qof baa saxiixa lacag ka saara kan amal buu ku yaalaa laakiin saalku isagu waa daily currency waa iska socda so marka laga yimaado fursadiina ganacsi meesha ku doorateen maxay tahay waxaa sii kartaa problemka caqabada ugu weyn customerka oo ahayd area degan xalisan caqabada ugu badan waxa waaye ka fogaanshaha suuqa dadka halka joogay ka fogyihiin waa bariyo kale oo dadku safar badan loo soo galo bi la soo raaco dadku ciyaaladooda ka soo tagaan dadku inta badan faalma laga yaabaa inuu isku filaamsho badan jirin marka aad ba xaafada ugu dhow yahay xilliyada badan inta badan qofku xilligood uu adeegan karaa halka isagoo waqti badan ka baxayn marka aad bay ugu dhowdahay in la adeegto waa dadka u dhoweyn adeeg kan badeecadihii iyo adeegyadii u baahaayeen suppose injio kale waa fogta waa absolutely faa'iido in qofkii meel u dhow adeeg ka helo laakiin isdii kartaa badeecadii ay wada rabeen oo dhan baad koobi kartaan oo qofku areada waa filan kartaa oo qofka inta hadda ahayno oo qudaarta iyo waxyaabaha badan oo xirxiraadka oo suuq inta ugu badan yaala meesha way yaaleen waxyaabaha aadka aan wada xoog badan saaran waa raashinka badan oo qof u baahan raashin badan oo raashin lowrada inta badan ma sameynano laakiin inta yarar oo adeega dheeliga ku socdo baan xoog saar iyo hilibka iyo caanaha oo mar talaagada la geliyo wixii markay si kala goyn intaas xoog saar baahida aan doonayno in xalin intaas way laakiin qaab weyn oo dukaan weyn uma shaqeynayno so badeecada nooca seasonal oo xilli oo kala socdo oo xilli ay socodkeedu badan sidoo kale duulaan badeecada aan in kiyaar sida qaar badan aan waxyaabaha marka baahida taagan adeer inta u badan waxyaabaha seasonalka noo ah horta wuxuu wax inta badan maalin kasta baxa waxyaabaha ugu badan waa sharabyada la shiido aan sameeyno xilliyada qaboobaha inta badan ma badna marka adeer xilligan lagu bishaan iyo inta lagu jiro sharab badan oo beeraha ka soo sida batiiq qaba wax doonaa kaasa seasonalna ugu badan xilliyada qaboobaha inta badan ma qabano marka kuleelka oo kale baan aad u soo badinaa si dadku u shiitaan guriyada ula aadaan صح ما شاء الله aan rabnaa inaan u furno station shop waxaan u baahnay inuu daboolo baahida ardada xaafadahan aagaan degan yani waxaan ka furno jidkan Gooray aagis marka Gooray aagisa waxa ku yaal iskoolo iyo jaamacado marka waxaan rabnaa in oo ardada baahida daboolo waxaan u bixinayaa koobigii iyo waraaqihii iyo ardeen wixii looga baahnaa dhan station wuxuu u baahnaayo dhan objectiveska aan ka leenahay waxa weeye businesska markuu hirgalo in hadhow uu noqdo business iswado oo gaar ah oo si caadiga u socda baahida businesska sana daboolo si jiro si fiican u kora baahida ardada iyo wax meesha jirana daboola product and service yani waxyaalaha aan bixinano waa buugaagtii iyo qalmaantii iyo koobiyadii daabacaadii intii station laga heli jiray oo dhammaystiran waa kuwa qalmaantii iyo buugaagtii iyo loo baahnaa isugu jira yani intii station lahaan jiray oo dhan oo dhamaanteed ku fargareynaya koobigii iyo daabacaadiina waa leeyahay qalabka waa haystaa target customerska waxa way ardada aaga degan iskoolada waxaan oo dhow Darwish waxaan oo dhow Nugaal waxaan oo dhow iskoolkan kale oo Cusmaan marka waa ardada iyo xafiisyada iyo dadka businesska iyo xafiisyada dawladda in iyagana daboolaan oo mataqaanaa ay waraaqaha iyo dokumentiyada u baahan yihiin ay ka helaan meesha dadka anaga yani iskoolada ardada kale waa kuwa oo waxa way buugaagtii iyo qalmaantii wax ku dhigan lahaayeen inay helaan meel u dhow ay ka heli karaan ay noqoto stationarygaas iyo xafiisyada iyo qalabkan u baahan yihiin si ay u shaqeeyaan oo waraaqyo iyo dokumentiyada iyo feelasha u baahan meel ay ka soo gataan u dhow si ay u noqoto target area-deedu waxa weeye waa area-daas ardada iyo iskooladu ay ka furan yihiin baa target noo ah oo meesha ugu dhow waa iskooladii oo ah inta hadda area-da aan ka furan ay ku taalo iyo xafiisyada oo ah baahidana baahi ay u baahan yihiin market competition waxa weeye meesha aan ka furano hadda waa jidkan dheer wax stationery kuma yaalo hadii lacal stationery kala yimaado in stationery kala yimaado anaga hadda waxay nagu tahay caqabad lacal haduu yimaadana waxaan sameeynaa sidii aan uga fiicnaan lahayn inaan discount sameeyno inaan waraaqa fiiriya bixino
inaan koobiga ardada waxa weeye haddii 2000 loo koobiyo aan 1000 koobiyeyno si anaga u soo jabaan oo discount wax uga jaban ay helaan u yimaadaan operational plan-kayga yani qaabka hore u shaqeeyo stationerygu subaxdii 7 la furayaa duhurkii xoogaa salaada la soo tukanaya bacda casarka lagu soo noqonaya adigu xilliyada salaada waa la xiriyaa waa la soo laabanaya jimcadana waa fasax inta kale caadi u shaqeynaya hadii la yiraahdo require equipment-ka qalabka aan u baahanahay waa miisas iyo printer iyo kuraas iyo desktop-kii loo isticmaali lahaa iyo printer-kii wax laga daabacayay يعني كرسي يمسك أو لو بهاي مسك لو فريستو يدابعادي يدسكتوب كي واحد كله إنفنتري بينقوني يعني ألعاب تيار كاي مركا تالي بينقوني هدي financial plan كي واحد ويه أو وساق كم مقطع شو كم بإسكوته لبا كن يعني صدق كم أتاع عطسنا أنت إنفنتري عطسنا لبا ده كنا كلنا أنا أسكودي أنا كفر جريسنا هذا ما تي وكاو ما سنتين dalba in la furo mid hore u jira ma eebiyada waxa ku yahay seejinaha qabar aye waxaan uga duwanaanayaa inaan discount sameeyo waxyaalo free bixiyo ma taqaana ardada aan soo jiidano qaybtooda wax free buugaag ama qalmaan ku siino koobiga aan jabino waxyaalahaas aan kaga duwanaanayaa hadii alla yidhi ardaydu waa fasaxiyo waxa jirta inoo wada xagaaga maxaa sameeyay xagaaga waxaan sameeynaa in ma taqaana ay sheeg waxa jira kuwa xagaaga baxaa jira sida macahado xagaaga dhigto daar quraano kuwaas iska socon doona xafiisyada kale waa iska shaqeeyaan kuwaas kabaya waa aniga oo iyo wiil yar oo ila gada hadii alla yidhi إن شاء الله هدي الله بحيو خرشات كيس في علوم أنا تجريه إنه إسبحين رجينا استشير واحد أفضل بي وباهي يعني خبرات بقول له يعني هذا كور بان واحد وميل استشير كشغلين تري أنا خبرات له يباهي لو باهي يضوء ساس أنضرت قيمة ما تو عديد سيسنا على حلو سقط حلوين يأخذوا أحسن ثالثة xafiisyada daar quraanada malcaamadaha jaamacadaha waxa soo dhan waxaynu marka xilliga ay xireeyeen xafiisyada kale iyo la iska noqonayaan hal midka ah competition-ka branch-ka la meelaha ama magaalada aad u furaya oo gaar ah ama delivery sameeyo xaflada waxa uu aad strong competition-ka u dhigay ama aad u sameeyay ama fancy waxa in yani customer care badan aan sameeyo oo dadka u soo dhaweyn iyo soo jajabnaan badan aan sameeyno discount inay helaan yani ma taqaana ii sheeg waxyaalo free yana mararka qaar kood aan u sameyn karno shaqaabo inta la geeyo nalgelinta hadii ku sameyn kartaa degmada iyo shaqaabo kooban bahe shaqaabo inta la geeyo waxay abuuri kartaa shaqaabo waxay abuuri kartaa yani dadka shaqeynaya ka hadla sameeyaa shaqaabo waxay abuuri marka uu lamaad geliyo laga yimaado qofka aan shaqano oo ganacsanayo inuu deegaankii ku soo kubiyo shaqaabo dad noloshooda ku dibay waa sax shaqaabo inta la basteedo sameeyo shaqaabo horta naga nolosheeda waa dhaca waana dabar waxay noo tahay meel yani income source naga soo galo shaqaalaha aan qaadanana shaqaabo u tahay dadka guryaha aan kireysanay iyo koronto waxa bixinana waa adeeg aan soo kordhinay oo yani hadhow aan wax bixinano meelaha soo dhan shaqaabo haduu sii weynaadana oo xaranjumo iyo baranjasi yeeshana marka shaqaalihiisu waa badanayaan waxay noqonaysaa inuu si fiican ma taqaana oo wax badan dad badan shaqaalaysiiyo may يعني labada kun materialki iyo qalabkii baa yani haysta waxaan isaalaabaha yani waaweyn desktop ka iyo waxa labada kun diyaar idinka 3 kun baa raba la igu daro hadii alla igu ay ku soo kordhinayaan anigu hadii aan magacay ka bilaabo wax la yiraahdo Maxamuud Faarax waxaan ku soo tartamayaa idea-da ah car wash gaari dhaqow ismaal yiraahdo
magaca businesska aan matalayo waxa u bixiyay Bounty Car Wash Service haddii aan ka hadlo si guud businesskan muxuu yahay Bounty Car Wash Service haddii aan ka hadlo si guud ganacsigan ama fikradan ganacsi waa in gawaarida la nadiifiyo dadka reer garow bulshada ku nool baabuurta loo dhaqo ama waxa la yiraahdaa car wash service aan sameeyno marka afar waxyaalood baa muhiim ah xooga saarayna ko gaariga in qofka loo dhaqo oo banaanka la dhaqo in gudaha laga dhaqo gaariga in olyada laga bedelo iyo gaari in loo xayreeyo badana gawaariga meelaha lagu dhaqo garow ka jiraay service-yada afarta service ma wada bixiyaan inta badan hal service ama laba service kooban yihiin waxa kale oo aan future fiilin doona hadii fikrado kale oo gaariga uu leeyahay lagu dari karo ma ahaanina macni kuwa ku dhigan macni kaliya gaar dhaqo kaliya objectiveska aan leenahay waa maxay waa inaan noqono shirkad ugu wanaagsan ama company-ga oo gawaarida dhaqa inaan macnihi aan gross profit-kaygu high always ahaado oo macnaheedu yahay macni percentage-ka $1 soo celin karo oo aan investment-ka galino inaan xooga saarno inaan ku tartarno quality-ga always service marda bixinaysa quality kama saaro qofkii badeeca ka qaadan maayo shay quality maayo marka wana quality-ga iyaduna waa xoog saarno waa maadiyada product-yada aan hayno waa afarta gaariga in banaanka laga dhaqo gudaha laga dhaqo gaariga xayreynta iyo olika bedelida badanaana ma helaysid saddex intaas oo hal ganacsi bixinayo horti wax kana ka hadlayaa ma yihiin baahi loo baahan yahay su'aasha koowaad waa taas isku diinayno community needs ma yihiin waxaan yes horti waxa ka jira dadka garow baabuurtu population uu batay baabuurtii waa batay always waxa lagu qiyaasayaa baabuurta garow joogta maanta 20,000 iyo abaf gaari markaan gaari leeyahay gaari kaliya maahan motor vehicles oo dhan ama tuk-tuk ha ahaato ama gaari yar ha ahaato ama gaari weyn ha ahaato maadaama uu yahay baahi jira see loo xallin karaa baahidaas oo kale kow waxa isweydiinay qofku muxuu sameyn karaa gaariga in gurigiisa ku dhaqdo wuxuu kaloo sameyn karaa inuu u giibso ciyaalka istiidiyada ku dhaqa ta saddexaad waa maxay inuu aado car wash business marka saasa waxa nagu sababtay inaanu keeno inaan aragno in business idea tahay fikrad laga shaqaysiin karo in gaari aan furno baalka target customer-ka yaa weeye dhammaan dadka baabuurta leh qoliyaha tuk-tukta leh waxa kaloo kamida local business owners waxa jira kambaniyada kale shirkado samaysmaayo kale sida dhaweeyo kale waxa jira oo kale NGOs kale ama international NGOs ka ama UN-ka waxa soo dhaw wax leeyahay baabuur waxa isku daynaa inaan la sameeyno contractiyo baabuurta u dhaqno markaas wax badan oo revenue aan ka sameeyno competition waxa uu jira business kan waa business jira horta laakiin maxaa meesha ka jira kow numberkiisa oo yar laba quality ay bixiyo service ka bixiyaan oo aad u hooseeya qofkii gaari garow wata oo ama la macaamilatiina waa garan karaysaan marka anaga muhiimadeedu waa maxay maadaama service bixinayna waxa muhiimka waa aan ku tartayna waa maxay waa quality ina qofkan gaari si nadiif leh loogu dhaqo waxyaalaha kale aan ku tartayna maxaa kamid ah price competitive marka la fiiriyo marketka iyo lacagta la qaada waa tiro badan yihiin anagu marka saddex waxyaalood baan tusaale soo qaatay baabuurta in anagu $5 ku dhaqno caadiga luxury baabuurtan caadiga raaxada kuwan loadiska ama baabuurta tragiska $8 tuk-tukta $2 meesha ugu hooseysa oo magaala waa soo indeeyay $6 bay ku dhaqaan gaariga gawaari waaweyn $10 bay ku dhaqaan bahashana $3 bay ku dhaqaan marka waxaan sameyn doonaa waxa arki doontaan price si aan ugu sameeyay yar oo faa'iido macquul ah tahay waxa kale oo aan sameynay SWOT analysis maxaan ku fiicnaa kale anaga meeshaan taariikh gareynaa waa jidka soddonka weey waxa ku walaa 3 car wash ku walaa laba way istaageen I don't know marka aan dad wareystay mid kamid ah xaggan waxa la sheegay in shil ay ka dhacay welina aan la furin taas aad baan contact ula sameeyay baabuurta maanta average 30 40 bay baawur bay dhaqaanaysa waliba oo ay san waqti ka dhaco hayaan ugu kala iskan tahay waxa kale oo fursad haysanaa oo kale dhibaato maxaa caqabadaha marka weakness-kayga muxuu yahay waa financial-ka weeye macnaheedu qofkii contribution inaan qayb ku helo maxaa kale oo trade nagu ah dhibaatada kaliya nagu ah waa competitors-kayga taasna waa tartan adag oo aqliyaysan baa la gelinaa
haddii ilaahay nagu guulaysiiyo marketing strategy muxuu yahay marka excellent customer service baan marketing strategy yahay inaanu bixino customer service ugu wanaagsan oo dadkaas ay ku qanacaanaysa sales promotion kisee ku gaarsiinayna kale dhibaatooyinka waxa ka mid ah kale dadka business meel baa la iskala galaa kale kow inaanu sameeyno brochures iyo waxyaalaha kan xafiisyada meelaha shirkadaha waaweyn oo kale kan UN ka kale ama hay'adaha kale inaan u geeyno adeegahayno oo brochure si ay hal mid baan ku waxyaalaha marka aan u baahanahay waxa ka mid ah qalabka u baahanahay waa kan contributor asset-kaygu waa intaan business kan ma yahay profit wax laga sameyn karo yes waxaan sameeyay kaliya projection profit and loss statement wax la yiraahdo tusaale kale saddex qof baan ka shaqaalaysinay minimum baawur maantii 20 gaari baa dhaqnay waa saddex bishii maxay noqonaysaa $3,000 saddexda qofkii $15 baa waa wage-ka ugu badan weey dadka hay'adaha xataa qaybtood baan qaadan $15 baa siina $1 tusaale kale 3,350 noqotay utilities-ki waxa soo dhan waa ano bumbuuninayna waxa sameeyay $400 bay noqotay business gacantiisa wax sameyn kara 1,250 profit kama sinti horta waxaa ka dhawaaqsay in kaarushku meesha lagu baahan yahay waxaa statisticska ku duwan waxa excellent customer service marka laga yimaado waxay sameynaysaa hal laba iga tahay maxaa ka wada excellent service kow waxa ka mid ah baawurta dhaqatii aragtay oo kale si fiican looma dhaqo waliba clean inside marka laga hadlayo waxaa jira waxyaalo la isticmaalo baawurka marka dhaqaayo dadkeenu marka ma isticmaalaan dhibaatooyinka waxa ka mid ah shaambo kaliya la isticmaala waxa jira bahala carfisooyin ugu talagalay gaariga oo dhalaalisa ma isticmaalaan waa wada maraan inta bahalkiya baawurna waa ka dhaqay ma isticmaalaan oo surface qofku macnihii ma jeclaysanaayo markii uu ka tagayo ko anaga marka waxaan rabnaa inay noqoto top priority inay noqoto inaanu qofka customer-ka qancino oo gaarigiisa very clean isoo ah udgoon leh عارفايا إنه نقلته. طبعاً كسر العكس ما بحاله. حكيت عن عكس نستخدم مثلاً إنه قف كميشي سوق الوقت كان شغال شو ستي وقتها. طبعاً كسر لسه صار كذا. أو قف كحافظ يتواصل هذا مع مش لا يوقع. أو كان صار بعد. البيزنس كان حافظ لي صار تقدر في محله. صار تقدر تروح ويكو أرت بابورت مجال السوق الرئيسي. وباهي بدن لو قبو. labo wadankeena baawurka hadda maanta garow hadda shan xafood isku madid gaariga wuxuu u baahan yahay inaad dhaqdo ama inaad leba jigeysid oo roads fiican ma haysano gaari isla markii wuxuu noqonayaa wax boor badan oo dhistiya waxa kale oo kamid ah ganacsigan aad u yar magaalada numberska 10 ganacsigan ka yar kuma badlaws intaanu aragnay waxa kale oo kamid ah service-kan dhalinyarta iyo dadka baawurta wata oo aad u xiiseeyay baawurka always clean yahay marka hadii waxaan booqanay markaan aydiidan keeninay dhowr ganacsi oo ganacsiga naga mid ah markasta wuxuu haystaa customer uusan baahidooda dabooli karin oo aad u tiro badan waxyaalahaas waxaan ugu dhaliyeen inaan ku soo darno adeegan lacagta u qoondeynay waxa weeye 6,000 totalkooda waa 6,000 iyo $6,250 weeye laakiin $4,400 in laga contribute gareeyo inta kalena aan confirm gareeyo wali waa kala qaaday oo anagu waxaan inaan fancy markii aan fancy-ga iyo waxyaalaha metra meesha lagu shaqeyn lahaa qalab kaliya in laga taageero other areas kale aan soo diyaariyo haddii aad price-ka laga yahay in ku baato laakiin waa qiyaasnay markaan xisaabinay iyo sida metra kuwa localka ay ku furan yihiin mashiinada u yaala iyo darbiga iyo dhismaha kale iyo waxa soo dhamarkii la fiiriyo حسن وإبليس. حسن مياه. كنت كاشو وش كاسيت بسمع. يس. في واحد يجي واحد شيء أيدي وامر حصل أو بس أولي أيدي فرين لكن كان يس. مش يصير واحد شيء برستيشن هذا سوت أناليس. يس. طبعا سوت أناليس حسينا كبزنس كالعوضة وشقيه ما بدنا لو هالبيع عقد نوريها. أوكي. ترى تجا حاكم إذا بدون تجا في واحد ثاني. وسوف على البيزنس كمين قريب لكن ستريد واحد ليه بس ستريد بقول ليه وما كتير بقى برودكت تنفيذ وصح السوات أناليز كان
aan sameynay macnaheedu waxaan ka soo qaadanay markaan sameynay anagu businesskan meeshan ka taaganahay darafkan ka taaganahay iyo caqabadaha naga hor imaan kara waxaan hadda haysano oo opportunities aan haysano threats ka naga hor imaan kara weakness ka waxa soo dhan baa macnaheedu waa projection way aan u sameynay businesskan si idea horta wax macnaheedu shaqeynaysa mata that's why aan u sameynay horta small SWOT analysis kan aan u sameynay okay competition ka waxa sheegtay issue jira oo waxa jira adiga target ka saartay kaarushada kale laga waxa jira competition kale very viable oo strong in a big area oo dhalinyarada meelaha kale waa movie baliyo sababtana kalis ma habayaan bas gaarada ku qaadanaya meesha sandiganaya waa ila qayaan way in hal uu kaliya yes se competition ka sug hal saan raacay waxa ku soo tahay exchange oil changes in atmosphere was actually technical service for one that se u dooranaysa qofkii expert ka ahaa gawaadhida kale model weyn ma injiku meel kaya mid baa chief mid baa taagan oo ma santahay Ote waa run waana ka dhawaajinay dhalinyarta qofku marka aan sameynay precisely ka mid ahayd qofku chance oo isoo ganacsigiisa businesskiisa ku dhaqdo always waxa jira baawurta waxa loo soo aadaa marka car washka cunugu banaanka ka dhigi kara gaariga iyo gudaha uu ma taqaan dahan isticmaalayo laakiin marka gaarigu uu dhiiqo roob yimaado boor badan galo wuxuu sahaysan khashaafadii oo lagu buufiyo qofku badanaa wuxuu jecel yahay unless ma taqaanaa uu factories ka kale sheegay sidoo kale ay meel arrin ka leeyahay oo kale ama uusan ka bixi karin maahane qofka duuga uu haysto chance markasta wuxuu door bidaa inuu aado car washka aad baa maashay summer executive kaas lama baahna very important si business switch waxa waaye meherad restaurant cafeteria yar ah oo macaanka lagu sameeyo waan ugu talagalay in dadka maaragtay magaaladu qaab u samaysan tahay xafadaha qaarkood ma lahan cafe laga cabo oo delicious fiican iyo cunada yar Swisska macaan meel yar relax dhalinyarada ku samayso oo leh way vigile oo ma taqaana noocaas areas process kan sameyn doono waxa wasaan ii sheegay waxa cabitaan macaan oo fruit oo mataqaana wadankeena naturalka oo lacag yar cheap ah cafe cabitaan shaaha kafeega isbeesad ku jecel yihiin iyo cunooyinka yarka sweetska ah oo sida mataqaana biisada iyo sandwich wax dadku hadda way baranayaan magaalada Hambi waxa cunooyinka yarkaayo kalluunka u badan fish ka samaysan yahay ayagoo sawirisa oo picturesa marketing strategic mataqaana aan ku sameynay oo ku sameynay waxa way garow in mataqaana sanadka hore oo sanadkan xoogaa maartay soo kacayo suuq u fiican yahay in mataqaana aan sameyno inahaas aan uga tagaya market customer ka aan la xiriirno waxa way dhalinyarada dadka dhalinyarada age ka dhexe oo population ugu badan iyo dadka mataqaana shaqeeyo oo markay shaqooyin ku daalaan inay meel ay ka helaan shaah ay mataqaana iyo waxyaalo ay refreshment ay ka isticmaalaan ardada iyo dadka magaalada ku imaanaya tourism ka kale to meel soo jiito yaro meherada oo cafeteria fariisan karaan oo ka cabbi karaan tan waa habkan u bilaabi doono qaabku noqon doono waxyaalahan mataqaana waterka iyo electricity isticmaalayno iyo waxyaalahaas oo dhan bishii mataqaana intuu noqon karo mataqaana waxa weeye beeraday maalintii intuu noqon karo waxyaalaha isticmaalan doono kale halkan hadda u gudbo waxyaalaha aanu hadda haysano assetka ah oo lacag ahaan waxyaalaha mataqaana ay noqon doonto inaan biska ku rangareeno qiimo ahaantiisa iyo cost of running business for the last 1 month iyana wasaas kale iyo waxyaalaha mataqaana assetka aan hadda gacanta ku haysano oo anagu aan leenahay iyo lacagtaan dalbanayno requestiga investment risk aan dalbanayno $2,500 inahaas aan ku soo koobayaa meheraddan yarta ah oo aan anigu eedida leeyahay magaaladan aan ka furi doono xafad aaga loo yaqaano jidka ama tsunamida waa baridaas xafadda hodan oo aan u badnayn meheradahaas in la fariisto la helo intaan kaga baxay
waa tayo badan yihiin light food wax la yiraahdo cunno fudud ma anagu samayn doonaa hilib geel iyo ma samayn doono meelaha ma artay Soomaalidu hal qol oo aanu space yar u helno waxaan samayn doonaa light food cunno la yiraahdo waxyaalaha yar biis oo kale to hanin oo professional oo cooker fiican ah baan insha Allah rajaynaa keeno cunooyinka fudud adag soo jeedin doono waa dareemayaa dadka runta income level weeye laakiin dadku markasta waxay jecel yihiin light food way jecel yihiin habeenkii cashada fudud sida rootiga yarka wax marsan yihiin iyo mataqaana jabaatiga waxyaalaha loo yaqaan cabitaanka shiidan oo kale xilliyada galabtii oo kale kafeega aslaabo waxyaalaha ma aragtay fikradda noocaas ku saleeyay waxay u dhaliyeen fikraddan markii hore meherad baan u lahaa meherad xarunta xamdi restaurant meherad weyn bay ahayd qaab waxaan u diyaariyay meherad weyn marka waxaan u diga rogtay inaan meherad yar oo light foods ka cunooyinka fudud aan sameeyo qalabkii aan u haysta iyo running cost-ka u baahanahay ayaa u dhalaysanaa already waa close la segments waa xiray markuu la socon waayay mataqaanaa caqabado soo wajahay sababta ay u bedelan waa sidaas caqabadaha oo soo wajahay waxaa ka mid ah meheradu markay weyn tahay waxay u baahan tahay lower badan shaqaale badan waxay u baahan tahay capital badan oo lagu rangareeyo waxay u baahan tahay mataqaanaa dakhliga kan galaya excess kan galaya in ka badan 3 jibaar 4 jibaar saaran kara 5 jibaarkiisa hore ayaa galaya marka kan uu ka lebar yahay una ka dakhli expense yahay kharashaadka aaga bulsho maxaa ku qiyaastay baahida aaga bulsho in fast food cunooyinka fudud looga baahan yahay research market aan sameeyay meheradaha badanaa ka furan meheradaha Soomaaliga oo traditional foodka lagu sameeyo iyo meherada kala duwan oo qaabka u samaysan meherada hore aan ka soo guuray cunooyin kilibka waxaas laga cuno laakiin ma lahan meel habeenkii iyo galabkii dambe galabtii waxyaalaha maartay keegska iyo laga helo oo mataqaanaa kafeega iyo light foodka cabitaanka shidan waxaas uma badna badacada afka shay sawirada productka soo kunaysa waxyaalaha aan junk food ba koon qalaha fast food waxyaalaha snacks baa laga hawaa sandwichkii burkii doorshii marka loo gadashada awoodda gadashada area-na waa unahay oo waxaa jooga dad ama arday u badan ama dad isku xoogsato oo area degan masii kartaa hadda xabad baargara iyo cocktail sharaabka hadda ugu yaraato $3 bay noqonaysaa $3 haafeen bay goysaa masii kartaa waa door badaya dadka macaamiisha ama wada tami kartaa ganacsiga kale hayay cunada caadiga waa sax waa mid meesha aan ka fikiro ku jirta annaga horta cunooyinkan annagaa soo gadanayna material waxyaalaha mataqaanaa waxaa noo sameynaya nin aanu keenay oo sameynaya asoo gacanta ku sameyn doona isagu sameyn doona marka aanu sameeyno anagu waxaan isku dayn inaan qiimaha aanu ka yareyno intii hore ay u ahaan jireen meelaha qaar kood magaalada qof marka soo yimaado xafadaha ka yimaado xafadahan kala yimaado inuu kala kulmo $10 oo kale cunooyinka ama $5 ama $3 saa sheegaysa laakiin anaga $1 bar ama $2 inaan ku saleyno qiimaha qaabka hadda u nashqadeeyay marka kafeshaha kabashiinka ah iyo keegaas kaleeto waxaan qabaa inay isbixin karto because of lowerkuna waa yareyn doonaa waxyaalo badan oo meesha naga geli lahayo mataqaanaa space-ka kala qaaliya noqon lahayd xaafaduhu kala jaban yihiin rentigu noo jabnaado kaleeto waxyaalo badan baan isku celin doonaa runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan soo bandhigo ganacsigayga ganacsigaygu waa ma ahan new business ma ahan laakiin waa executive business ama running business kan la yiraahdo isagoo jira muddo kooban oo bila marka kulay isagoo muddo kooban jira waa haddana wuxuu eg yahay ganacsi sidii loogu talagalay u socda marka kulay location-ku waa Garowe email-kaas uu leeyahay waa si official email-kiisaas waxa operation manager ka aniga graphic designer waxa weeye waa inkaas Siciid Faarax Siciid Maxamed Faarax la yiraahdo marketing manager kana waa Abshir Abdirashiid Abshir waxaan doonaynaa hinahaas inaan isla eegno kulay marka la leeyahay beach waxa weeyaan business ama prestation-ka waxa fiican inaad soo koobtid inkastoo waqti haysanaa kooban yahay marka waxaan doonaynaa hinaha inaan xoogaa ka hadalno waxa ugu horeeya business description-kii target market description-kii iyo quotation-kii iyo how to make money-ga iyo financial project-ka intaasaan doonaynaa insha Allah inaan inaha taabano
waxaan doonaynaa inaan qaybta ugu hore ka hadalno oo ah businesskaagu muxuu yahay muxuu qabanayaa runtii waxa uu bixinayaa adeegyada halkaa ku wada qoran oo dhan sida caadiga normalka ah waxaanu la soconnaa nidaamkan ama ganacsigan bixiya digital printing processka waxa weeyaan adeegaas oo dhan way bixiyaan laakiin annaga waxyaabo waxay ganacsigeena ku jira ama programkeena ku jira waxyaabo kale ay bixin iyagu tusaale ahaan oo kale ka business card lateral handskaas kala ka mid ah business card isku bixiya laakiin markaasaan doonayna aan ku soo korno insha Allah marka waxa weeyaan waa t-shirt cabis plate printer kaas tan hore ugu horeysa waxa weeyaan waa kulay waa qaabka garamaanta lagu qori lahaa magacyada lambarada koobabka kale sida sawirada magacyada qof kasta wuxuu u baahan yahay in lagu qoro broshuriska kamida waxa kamida secrets waa kamida billboard ka kamida ID cards ka kamida all certificates ba kamida invitations designs ba kamida books waxa soo dhan ba kamida marka kulay waxaan u maleynayaa idinkana fursad bay inay tahay kulay waan doonayma doontaa waan naga dawacad doontaan adresskii iyo contactna waan siin doonaa insha Allah marka kulay businesskan wuxuu yahay mid sanada shaqeynaya sidii aad u arki doontaan insha Allah waxa target noo ah ama dadkan doonayna inaanu ganacsigeena u bandhigno waxa kamid ah waxa weeyaan waxaan xooga saareynaa institutionka dawladaha oo kale imika dawladda oo kale xafiisyada dawladda oo kale awood saareynaa ururiyada maxalliga ahayn imika shaqo doon oo kale UNDP oo kale something waxa soo dhan baan awood saareynaa inaanu ganacsigeena ka iibino waxa kale oo ka iibinaynaa private iyo public sectorska baanu ka iibinaynaa ganacsigeena insha Allah u geyn doonaa dulaaymo kulay meel badan oo ku xiranay way jiraan waxa kamid restaurantska super shopska hotelska community marka kulay kama maqnidin yarkii ka hadlay hadda sweetska iyo bakeeriga waa kana waa noo imanaysa soo design garaysan ma si fiican kugu daabici doona oo waliba waxa weeyaan lagu soo noqon doonta adigoo waliba oral communication si fiican oo qaadi doona insha Allah marka saasan adeegeena uu noqon doona hadii ilaahay insha Allah hadda biyaal tartamaysa muhiimadu waa tan weey tanaan u baahanahay inaan xogaa isla eegno ganacsiyada badan way jiraan oo ka shaqeeya nidaamkan hadda aan soo bandhignay oo ah printing iyo nidaamkan daabacada waxaanu doonaynaa inaanu anagu xooga saarno inaanu adeegeena ka dhigno mid noqda quality service will provide adeeg tayo leh oo qofka noo imanaya macaamiisha ah uu feedback fiican laga gudbiyo that's point waxa weeyaan inta badan available price kaasi kuma soo daraan waxa weeyaan ganacsiga nala jaarka waxa weeyaan waa qiimo macquul ah qof kasta qiimaha qof kasta noo imanaya waxaan ku raali gelinaynaa una raali ka noqon doona insha Allah inuu waxa weeyaan ganacsigeena uu baalkiyay waxa kale oo sameyn doona insha Allah male inta badan waanu aragnay research badan baan sameynay male sanduuqa cabashada male waxa weeyaan company waa la sameynaya waa la burskareynaya laakiin qofkan doonaysid inaad waxa weeyaan wax ka iibisid waxa weeyaan waa qofka macaamilka kuwa waa jeebkiisa ku xisaabtamaysa marka kulay cabashadaasna way jirtaa iyadana waxaan sameynaynaa sanduuqa cabashada waxa weeyaan waxa kale oo jira isna waxa weeyaan discount waan sameynaynaa 10% discount waxa weeyaan offline iyo online labadaba waad ka helaysaa waxa weeyaan email baa soo diraysaa ama telephone baa soo diraysaa waxa weeyaan waa waxa u baahan tahay dhawaan la dhil garanaysa isagoo macaa xiran xafiiskeena even waxa weeyaan waa qaybtii ugu dambaysa u maleynaya kulay financial project waxa weeyaan waxyaabaha assetka tribute aanu haysano lacagta aanu haysano ama lacagta kharashka naga gashay xafiiska waa 2810 lacagta hata aan gacanta ka haysanana waa 1500 kulay waxa weeyaan waxaan maleynaa diyaar u nahay mashruucan sidaanu waxa weeyaan cash flow something waxaynu wadan waa diyaarsanahay kulay waxa weeyaan ma jiraan banks ama aanu meel ka qaadanayno investors ma jiraan ma maleynaya kulay waxa jira investment baa jira investments ka u baahanayna waa 4000 kulay markii la isku wada geeyo xisaabaadkaana kharashaadkaanu xafiiska naga galay intaan haysano total intaas noqonaya waxa ugu dambeeya haddii aanu ogaano sidoo ganacsiga uu sameeynaya lacag that's simple absolutely bis intaas ku soo koobaya kulay pointskaas ugu dambeeya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh diyaar baan u ahay su'aalihiina problemka macaamiisha digital printing adeega see waxa laga yaabaa tamala xagee ku yaala business-ku website
kolley waanu sheegnay xaguu ku yaalo Garowe caasimada ku yaala laakiin location kaanu cabar arbaabin location-ka waa meel aan xulanay wuxuu ku yaalaa may ganacsi hadda bilbu asaasan yahay bilbu asaasan yahay ganacsiga ganacsi hore jiray shaqaynay ma ahayn laakiin muddo bilbu hadda asaasan yahay kolley location-kana wuxuu ku yaalaa Ground Mall way barxadda Ground Mall ku yaalaa kolley meesha hadda hanuuninta la dumiyay dabaqa dhinaca xiga Ground Mall xagaas ku yaalaa markaasaas ku location-kiisa buu waxaan u xalinaynaa dhowr siyaabood hadda waa annaga niri waxaan sameeynaa waxa weeyaan sanduuq cabasho waxa weeyaan qofka matalan tusaale ahaan aan adeega u samaynayo kale si qarsoodiya ayuu wuxuu soo qorayaa waraaqdaas oo nala dhilgalaynayo waxa weeyaan adeegaanu bixino waxyaabaha waxa weeyaan adeegaas hoos u dhigi karaya waxyaabahan ku fiicannahay iyo waxyaabuhu ka cabanayo taas waa mid tagala doonayaan inaanu sameeyno waxa weeyaan inaan waxa weeyaan aan hadduu suuragal tahay inaan location-kiisa ugu tagno listigan itemska service-kan aad keenaysaan lista ugu baahan qaab ay ku mitay machine u baahan sidii kataan dhaqaalaha aad sheegaysan qalabkaas oo dhan aad adeegaas tanaafisaan niyo waa sax weeyaan kolley waxaan kolley qalab aan haysanaa way jiraan qalab naga maqan way jiraan laakiin qalabka ugu muhiimsan oo naga maqan waxa weeyaan waa keyboardka waa intaabacay kaasaan u baahanahay kolley lacagna waan ku haysanaa in kale ku darana waan u baahanahay contribution marka dhibta ugu weyn waa machine-ka weyn qaabka ku keeni lahayn iyo nidaamka ku bixin lahayn okay kamidina oo weyn ka shaqeysa asal oo kale ama riyaal oo kale oo badan ka shaqeeya printer digital kan dad baa video shaqeeyo oo entrepreneur oo delivery famous oo zeeba advantage kan advantage gaari marka nafsoo niyo wuxuu noqonayaa kolley siyaabo kala duwan su'aal ahaan hadda waxaa ku jira sidaan hadda u sharaxaynay nidaam ah مثلا هذا social media waxaad ku arkaysaa markay dadku is guursadaan oo kale tusaale ahaan garamaan ay xiran yihiin queen iyo something ay ku qoran tahay iyo king marka waxyaabaha inta badan ma sameeyaan qolada digital printerska marka waxyaabaha isaga dawanaanayna inaanu garamaan noocaas daawacno oo la dhilgareynay dadka doonaya inay guursadaan dhalinyarta doonaya inay guursadaan oo kale waxa kale kamid ah inaan مثلا imika aroosyada oo kale ama sariiraha lagu guursanayo kale inaan ubax iyo something waxyaabaha aynkaas aan u daawacnay iyagana as decoration han u shaqeynaa laakiin design waan sameyn karnaa annagu wili mashiinada aysan isticmaali doona insha Allah kulley bishaas ay soconayso waxaan ka wadaa profit mun soo saaray laakiin wuxuu eegyahay ganacsi shaqeynayo eegyahay sanad soo jira kolley qorshe waanu sameynay qorshahaas oo ah even haddii mashiinka naga maqan loo yimaado hadda inta kale uu iskaaba ganacsiga oo waxa weeyaan shaqaalaha waanu bixinaa waxaan ka bixinaa adeegan qabanaa ka bixinaa mushaarkiisa kuwa kale oo volunteer lagu shaqeynay way jiraan laba shaqaalaha oo jooga aniga iyo wiil kale marka hadii wax la hayay aqoonta price ka sameeyanayo inuu macquul kii soo dhaw ugu dhaqashay wuxuu hadba ka qaadaysan waxa qiimo baa niyo waxa qiimo noogan way jiraan laakiin waxa la dhiin gareyn doonaa insha Allah qof kasta inaanu qancino sidoo doona ahaadee isagoo aanu ku xisaabtamayno waliba jeebkiisa inta awoodi karo meesha ganacsigan waa ganacsi xogaa adeereer ku ah deegaanka زائد uguma badna marka la زائد uguma badna meel kasta way jirtaa dhar waa lagu tolaa dawarlayaal badan magaalada waa joogan ama deegaanka waa buuxaan marka waxa kaliya anagu uga duwanahay ama ganacsiga uga duwanaanayo taylarada kale waxa weeyaan waa aragteen ganacsiyasha kale oo meelaha dharka lagu tolo ama lagu nashqadeeyo kama wado color lagu tolo ban ka wada kaliya waxay sameeyaan waxyaalaha caadiga ah oo ah sida jalaabiibta iyo wax la mid ah ganacsigan waxa weeyaan ganacsi ah in aan keeno dad oo tailor professional ah dad oo ku takhasusay زائد maxaa la dhihi jiray dhar tulitaanka waxaan keenaynaa materialka laga sameeyo maxaa la dhihi jiray dharka haweenka u badan target maxaa la dhihi jiray customer-ka iyagu sida idinka muuqata ilabis fashion house waxa weeyaan waa designing hub waa meel lagu maxaa la dhihi jiray talo dharka
ayagoo naqshado kala gedisan ah ayagoo la isticmaalayo qalabka hoos idinka muuqda waa garanaysaan kaas waa harqaankii kuwaasaa dheeraad ku ah oo kuwa maxaa la dhihi jiray dharka oo dunta lagu samaynayo maxaa la dhihi jiray businesskan objectiveska away hadday noqon lahayd cambuur hadday noqon lahayd xijaab hadday noqon lahayd khamaar everything oo maxaa la dhihi jiray material ah oo laga sameeyo dharka waxaan sidoo kale keenaynaa tayloro laba taylor oo professional ah sida objectiveska idinkaga muuqata waxaan sameynaynaa maxaa la dhihi jiray hadafkaygu wuxuu yahay inaan u sameyno dadka naqshadaha dharka lagu soo nashqadeeyo ama lagu soo tolo dibadda inaan anagu halkan qofka asagoo jooga intaa materialka oo maxaa la dhihi jiray waaraada intaa keensano inaan anaga meeshan ugu tolno uusan qofkii hadda hadduu qofku maro jeclaado oo kaleeto suu maradii asagoo gurigiisa jooga oo qiimo macquulana ku helayo si fiican asaga oo maxaa la dhihi jiray uu ka helayana loogu nashqadeeyo inuu qof kasta dhisaan hadduu la yimaado marada noocaasaan u baahanahay haye materialkeeda waan haynaa naqshada noocaasaan idinku talaynaa inaan dadka usoo gudbino naqshado annaga noo gaara oo markaas aan usoo bandhigno aan dhahno naqshadaha noocaas waa 2,000 bangiga oo kale haddaan u baahdo 2,000 baa yani ka qaadanaya oo sida qorshuhu yahay request investment from shaqadoonna waa 4,000 operational plan yani qofka rangalaynaya shaqadaas ama servicekaas wuxuu noqon doonaa aniga insha Allah haddii aan shaqaale kale u baahdana waa ku dari doonaa risk mitigation-ku waxa waaye يعني سي سيرفيس كان أم بيزنس كان أو كنترول لها واحد كواليتي أو كانوا ومركز صعنايا يعني واحد كاش فلو أو كلام العقد بحي سو كلام أو يري واحد كواليتي لو بحي يعني أو كان إن شاء الله قاتان أنتوا فضفضت كعنان قفكم مركو دبال سبي ودالا مركان كهالله بيزنس targetkayga ama waxyaalaha aan doonayo inaan sameeyo ama aan gaaro business customerkayga waxa ay ah ciyaartooyda iyo kale dadka ciyaaraha kubadda dheela iyo dadka ah olderka dadka da'doodu waaweynka ay tahay anigu waxaan ka shaqeeyaa xarumo caafimaad mar walba waxaan arkaa dhaqaatiirtu dad ay u qoraaniin massages in loo sameeyo markaan eegay baahida bulshada ay u qabto businesskan baan waxaan ideadan waxaan ku talagalay inaan sameeyo ama meel furto lagu sameeyo meesha lagu sameeyaa waa one place waa hal guri gurigaas wuxuu leeyahay barkad oo maylka kaliya ay ku dabaashaaniin oo u sameeyay iyo 2 qol amal oo ah massageska lagu sameeyo massageska caalamka markaan eegno waxa lagu sameeyaa qolkan oo kale male and female waa lagu wada sameeyaa laakiin inagu islaam baynu nahay ma suurtagelayso marka qol dumara iyo qol rag ah shaqaaluhuna uu yahay kan dumarka u sameynayana uu yahay dumar kan ragga u sameynayana uu yahay rag marka dabaasho kale waa meel kaliya meesha oo baleyska oo micnihi guriga ku yaalo ama se meesha laga furayo oo aad u yar oo aan suurtagelinayn in micnihi 2 barkadood loo sameeyo baa 1 barkad oo loo sameeyay oo micnihi ragga kaliya loogu sameeyo markii laga hadlo micnihi qaabka loo sameynayo waxay leedahay hal qof oo shaqaale ah oo ilaaliyo qofka safety-giisa ama se micnihi baradadka aan dabaasha aqoon dabaasha qalabka lagu dabaalanayna uu yaalo business productiga markii aan fiiriyo productiga waxa waaye waxyaalaha aan soo saarayno dadku inay baahi u qabeen businesskan oo uusan ahayn wax wadanka ka jira oo aan ku soo kordhinayno dadkii sida xiliyada aan dadka u sameeynayna ay tahay habeenkii oo kale dadku markay maalintii oo kale had garow oo kale shaqaalaha ugu badan Puntland baa ka shaqeeya waa xarunta ugu weyn oo dawladda maynka u ah shaqaaluhu markay maalintii oo dhan soo shaqeeyaan habeenkii waxay u baahan yihiin massages in loo sameeyo ama in micnihi ay helaaniin meel ay massages ku soo qaataaniin dadka olderka oo kale sida hore u soo sheegay iyaguna waxay u baahan yihiin dad dhaqaatiirtu u soo qortaa jira massage in loo sameeyo marketing strategy-ga waxyaalaha aan sameynayno ama si aan marketing-ka noo ah
suuqgeynteena waxa waaye dee waxyaalaha aan samaynayno inay saa yihiin iyo cuntooyin fudfudud oo aan bixinayno sida cuntooyinka carbohydrate iyo sugarta ku badan tahay waayo qofkaan marka masaaj loo sameeyo wuxuu u baahan yahay waxyaalaha carbohydrate inuu qaato inuu cabo kafee oo kale si uu inuu flexible u noqdo qofkaas marketing analysis ko kale markaan tago waxaan sameynaa marketingkeenu maadaama uu waxyagu unique yahay annaga aan ku shaqaynayno suuqyadoo kale markaan soo fiirino maybe way dhici kartaa annagu markaan waxaan samayno in dad kale ay furtaaniin laakiin qaabka dadku ugu baahan yahay oo kale iyo inaanu dadkii soo jiidasho ku samayno aslan meeshaan markaan furayno kale inaan u samaynay qaaco xaflad aan ku soo jiidanayno dadka inaan samayno kaarar oo kale dadku markay noo imaanayaan kaarar aanu siino xafladda ugu horeysa oo dadka markii aan furaynay meesha inaan ciyaartooyda kale ku casino si ay dadku noogu soo jiidaneen customerskana waxa kamid ah marka uu adeegayno customerka adeega uu qabanayno dadka micni macaamiisha iyada inaanu mar walba u sheegno shaqadan aanu u qabanayno inay micnihi tahay mid aan habeen iyo maalinba aanu qabanayno sida subaxdii oo kale hal saac in meesha la furayo habeenkii oo kale ilaa iyo 6 habeenimo oo kale la helayo maadaama shaqaalaha ugu badan ay habeenkii imaan karaan meesha dad waxa jira salaad intay shaqo galaanin oo kale habeenkii oo kale jaanis heli kara financial planku waxa ku baxaysa meesha lacag badan waayo meeshu waa meel weyn gurigaan oo kale markaad kireysatid waxaad sameynaysaa barkadii baad qodaysaa waxa kale oo sameynaysaa boorar baad u sameynaysaa meesha xayeysiis baad u sameynaysaa xaflad baad u qabanaysaa waa habeynaysaa meeshii waxa kale oo jira qalabkan hadda waxaan wax wadanka ka jiray maaha waa waxaan dalka dibadiisa ka dalbanayno sorry waxa kale oo meesha aniga igula jira maadaama ani aan fikradda keenay gabar walaashay hadda ku maqal dalka Malaysia alaabtan lagu sameynayo masaajiska sida ogtiin caalamka Asia ni ugu horeysa Asia waxaan ka dalbanaa sariiraha masaajiska iyo waxyaalihii creamiska masaajiska lagu sameynayo iyo shaqaalaha marka ugu horeysa noo sameynaya masaajiska dan waxaan sameynaa shaqaalahaas waxa uu keensanaynaa intay noo joogaan shaqaale kale noo tababaraan si ay hadhow noogu shaqeeyaan way shaqaalahan waa shaqaale aad soo kireysto wadanka keensatay suurtagalna kuma noqonaysa waligood inay wadankan kula joogaan marka si ay uga faa'iideysatay waa inay shaqaale kale ku sii tababaraan sweepingka hal qof aan nooga shaqeynaya meesha masaajiska laba qof aan nooga shaqeynaya cafeteriana hal qof idea unique quality laakiin hamarna cost total 18 baa ku baxaysa lacagta meesha total waxaan haysanaa lacag 10 labadeena qof oo meesha furanaysa 8 baan naga maqan program massage caafimaadka loo soo qaado gaaro waa physiotherapy massage oo aqoon badan aqoon yahay qofkii caafimaad ku jiro oo ama dad waxa qada caafimaad physiotherapy dad physiotherapy bartay oo masaajka ii sameeyaan keensanaya anigu waxaan ahay shaqaale caafimaad qof nurse baan ahay aniga nursing laakiin oo wax badan baan ka fahansanahay laakiin qofkan ma aha wixii caafimaad baa tahay waa qof wixii yaqaan inaad keensatid so that idea in actual idea is very huge although you have a long time in the process of sama labato markuu baahaystaa adiga aalada amaan sorry target strategy-geena waxa kamid ah inaanu intaan meeshaan faa'iidada nooga soo baxda iyo annaga oo laba qof oo shaqeeya asalirigayaga intaan isku darno dhul inaan iibsano dhulka aanu iibsano inaanu amaah ka dalmano bangiyada ama constructionada dhulka dhisa inaanu dhahno dhulka noo dhisa hadhowna aanu lacagta ugu gudno bilbil nooga jara faa'iidada meesha nooga soo baxda iyo mushaharkayga aan qayb ka jirno inaan bishii ku bixino guriga kiradiisi si aanu uga baxno guriga kan waxyaalaha aan tiigsanayno waxa kamid ah barkadu waa mayl kaliya hadda aan leenahay sweepingka inaanu female-na u sameeyno oo guriga kale u balays weyn ku fadhiyo labada dhinac barkadihii laga kala sameeyo marka hore aan meeshan furanayno waxyaalaha target-ka raadinayna taas oo kamid tahay laakiin markaan meesha furanayno shaqaale kooban baan ku furanaynaa guri yar oo hal barkad noolena waan furanaynaa iyo hal bibito meesha laga soo gala oo micni meel yar oo feeg iyo ugu sameeya cuntooyinka fudud wallaahi waxa isleeyahay dhaqaale wanaagsan haddii waqti la geliyo dhaqaale wanaagsan baa ka soo baxaya way noogu qoran tahay meesha 17 oo saan ah isku weerar triangle ay u samaysmaysaa
kharashka ku baxayana wuxuu noqonayaa $700 يعني قديتان كذا يا هواين كذا يا بريه لساري قلب كي لو استعمالي سويبنك waxay leeyihiin hadda wadankeena kale markaan u eegno ilmaha yar yarka oo kale durdurkaas oo kale markay aadaan biyo xuna marayaan ilmaha xareeda hore u sii qaato waxba dabaala ma garanayaan durdurna meeshan ma lahan micnihi ninkaan nooga shaqeynaya meeshan inuu ilmaha yarka sida khamiista iyo kale fasaxayeen iyo jimcaha inaan waalidiintoodana ku dhiirigelin inay soo kaxayaan dabaasha la baro Okay. Muxuu home grocery muxuu yahay waa home bahalkii horta targetkayga ugu weyn waa ognahay suuq walba waxa laga helaa iyo meel walba inta waqtiyada meelaha ugu badan waxa laga helaa qudaar laakiin anagu maxaa kaga duwanahay weeyaan waxa kaga duwanahay waxyaabo badan oo soo socda insha Allah waan arki doontaa objectiveskaygu muxuu yahay ama targetkaygu waxa weeyaan targetkaygu waa 2 point ugu waaweyn pointiga koowaad wuxuu yahay waa inay bahalkii dadkuna soo booqdaan oo bahalkii alaabaha naga iibsadaan kuna qanacaan bahalkii productgayga meesha noo yaala targetka labaadna waxa weeye to sold out our items macnaha inaan alaabtayda iibino sidoo kale tan aan home delivery sameeyno sida bahalkii dadka ay ku adagtahay oo kale inay yimaadaan okay target area waxa weeyaan hadda muhiimadda ugu weyn waa Garowe inaan target area ka sameeyno laakiin markii bahalkii aan businesskayga weynaado insha Allah waxaan rajaynaynaa bahalkii magaalooyinka inaan gaarsiino ama bahalkii hadii ay noo gaari weydo magaalooyinka oo kale xarumo kale inaan bahalkii magaalada laftirkeeda aan xarumo ka waaweyn ka furno sidoo kale surfaceska inaan sida hore idinku sheegay dadka aan bahalkii home delivery ugu sameeyno oo aan bahalkii yeelano shaqaale u gooniyo oo markaas dadka u baahan yihiin la dhigi karo bahalka hadda masaafada ay jirto kaliya laga maqnaan karo si emergency aan bahalkii looga gaarsiin karo okay marketkiisa waxyaabaha soo dhan ay ku yaalaan inaan bahalkii marka xaafadaha online lagu geynayo xaafad walba online ka ugu geynayna aan stickerska ugu darno bahalkii online marketing inaan sameeyno sida inaan website-yada ku xayeysiino oo kale ama baraha social media oo kale advertisement inaan u sameeyno bil walba 2 jeer oo kale ka qaadin advertisement inaan u sameeyno bil walba mar ama 2 jeer oo kale si bahalkii wax walba mar walba waxaan ku soo cusboonaysiinay ku soo darnay aan bahalkii u sheegno oo aan ku sameeyno advertisement-ga TV-yada iyo raadiyaha okay operationska maxaa markii maadaama businesskan aan balaankiisa sheegnay wixii lagu hawlgali lahaa maxaa weeyaan marka wadabo okay ninka financial waxaan wax muhiim ah maaha intaas financialka baa soo koobaya 8670 ku kacayo may waa ganacsi cusub weeyaan insha Allah hadeer locationka waxa ugu talagalay aaga barxadda aaga u dhaxeeya bahalkii masjidka jaamaca iyo bahalkii iskool darwiish barxadda u dhow yahay may labadaba waa rabnaa waxaan rabnaa delivery inaan sameeyno sidoo kale tan waxaan rabnaa inaan bahalkii ganacsiga meeshiisa yaalo sidoo kale ta waxa qorshayaasha noogu jira iyagana inaan bahalkii qudaarta oo kale to waxa laga yaabaa marmar inay bahalkii laga yaabo inay bahalkii baarto oo kale ta waxaan rabnaa inaan bahalkii kuukarku ku jira intaan karina maaragtay inaan seafoodka ama fishka oo kale ta aan ku darno si ay safety food u noqoto لكن مجالات الشيبي عصر مرة ما أعرف مرة رجع إن وده شيء أنا خلاص رجعت البلد ده هو كله كان رجع ممكن challenge حقوقه ممكن على كاتو okay horta challenge hal time bay ku noqon kartaa challenge-ga way ku noqon kartaa waxay horta magaalada hadii qofku kala yaqaano oo deegaanka yahay oo kale challenge kuma noqon karto laakiin sadaro wal magaalo kale ka yimaado kale from Boosaaso oo kale challenge bay ku noqon laakiin nin Garowe inta ku leeyahay 30 sano joogay wax challenge kuma noqon karto customer targetka iyaga ugu weyn waa bahalkii dadka office-yada jooga maadaama ay bahalkii badanaa hadda dadku ay faadka la dagaalamayaan oo kale safety foodka ay u daneynayaan oo kale
sidoo kaleeto waxaa target noo ah guryaha oo kaleeto inaan cuntadii oo diyaarsan aan ugu geyno because dadku badanaa way shaqeeyaan dumarka oo kaleeto iyagoo shaqeeya iska imaanayaan guriga cuntadii waxa laga yaabaa gabadha shaqaalaha inay markaa ka tagto oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan baa waxay noo tahay customer targetka may delivery-gu wuxuu ku jiraa budget targetka gaariga wuxuu ku jiraa budget targetka marka waxa weeyaan isaga un baa shidaalkiisa iyo wixiisa isku qabaya kaliya muhiimadu waa inaan gaariga helnaa competition business in idea ku jira iyagu hada furan baa jira oo almidkii aan gurigii aan adeeg bixiya laakiin aan delivery sameyn haddii idea marka idea la isticmaalay ama dadka ku gareeyaan si competition-ka advantage loo qaadan competition-ku ustaad waxay ku xiran tahay bahalkayga hadba sida adigu u samaysid hardworker-nimadaada ay ku xiran tahay haddii adigu tahay qof dadaal badan oo markasta aadato qof competition-ku loo sameeyo taadii sameynaya fikrad ka duwan oo kale taala la yimaada muhiimadu waa intaa عفوا horta halka inaan idinka raali galiyaa rabay hal qof kaliya way waa Mune Axmed bis weeyaan ha waa ownership bas qofka kale to right in Europe hada wax dhaqaale aan haystay ma jirto waa beginning weeye inaan bilaabo raba insha Allah marka hadda xilliga ay suuqa kale ama suuqa loo baahan haye ana loo wada tisba baday dii waxa laga sameeyay sidoo horta waa challenge-ga ugu weyn taasi laakiin se waxa lagu kala xalin karaa qofka kan hadii uu bahalkiga horta markasta oo dadka islaamka goorta ay kacaan waa 5 subaxnimo waxa leeyahay afwan salaada subax waa adigu 4 barka 4 adigu hadii uu shaqaaluhu kacaan oo ay bahalkigi hawshooda ku kala dhaqaaqaan nin walbaba 20 daqiiqo hadii lagu geeyo ama uu sugo 20 daqiiqo waxay la tahay shaaha intuu saaran yahay nin kasta waa sugi karaa surface-ka may nin kastaba waxa loo sameeyaa soo bahalkigi listi wuxuu u baahan yahay isagoo soo jalaataysan oo habaysan baa loo keenayaa talaagada iyo wax walba uu leeyahay ma ahaanaya wax bahalkigi wasakhaysan ama nolosheedu horta waxay uga bedelaysaa laba wax uga bedelaysaa tan koowaad waxay tahay dhanka bulshada marka aan fiiriyo community-ga aan ku dhex jirno way ka bedelaysaa waxay uga bedelaysaa surface waxay heleen cusub oo marka ku soo biiray tan labaadna anigana way bedelaysaa waxay iga bedelaysaa goolkayga aan muddo sanad iyo siyaado ah aan ka fikiraya ay hirgelaya Mayada Cosmetics and Fragrance Business Center waxa waaye waa xarun ganacsi xaruntaas oo aan jecelahay inaan yaani hadii i hirgasho aan ku iibiyo waxyaalaha cosmetics-ka ah nooc kasta ay yihiinba hadii ahaan waxyaalaha skin care-ka ah oo jirka binaadam ku marsado hadii ahaan la kreemadii la isku qurxin lahaa nooc walba ay yihiin shaambooyinkii waxyaalaha uduga ahaa nooc walba perfumeski deodoradii cataradii hadafka aan ka leeyahay ganacsigan ama igu dhalisay objectiveska main objectiveska aan ka leeyahay waxa way koow inuu yaani inaan ahaado qof yaani entrepreneur ah oo yaani suuqa ku soo kordhiya xirfad ganacsi sidoo kale inaan ahaado qof yaani self employed ah oo yaani nafsadiisa u abuura maxaa dhahaa shaqo abuur maxaa dhahaa dadka ila shaqeyn sidoo kale aan ganacsi shaqo u abuuro sidoo kale inaan badiyo to increase number of the women entrepreneurs in the market يعني inaan badiyo women entrepreneurshipska suuqa ka shaqeeya oo yani maxaa lahaa aan kor u badiyo saa ognahay cosmetics-ka hadda garow aan joognaa suuqa injiba maxaa aadka dad dumarka uga iibsadaan ama dadku uga iibsadaan weeye marka dadka maxaa lahaa ka ganacsada cosmetics-ka waxa ugu badan waa rag marka waxaan rabaa inaan yani meesha ku soo kordhiyo yani qof dumar ah oo ka shaqeysta waxyaalaha cosmetics-ka ah iyo uduga noocyadiisa kala duwan target market-ka aan leeyahay waxa weeyaan waa inji halkaas oo ah the most crowded and populated area in Garowe yani meesha ugu badan
oo population ugu badan garow ay u soo shaqo tagaan waxa waaye waa inji dadka sidoo kale shoppingka samaysta ama maxaa la suuq ka soo adeeganayna waxay soo aadaan waa suuq inji marka maxaa la dhahaa basically ganacsiga wuxuu ku base garaysnaan doonaa inji market competition and competitor advantage-ka oo yani aan isleeyahay dadka competitors-kayga ah oo yani suuqa igula tartami doona waxyaalaha aan kaga duwanaan doono waxa way kow inuu ganacsiga lahaado waxyaalaha loo yaqaan trademarks ama brand gooni ah saa ognahay waxyaalahan cosmetics-ka dad ka ganacsada waxay ka yani productooda kasoo kala iibsadaan maxaa lahaa company kala duwan marka aniga waxaan rabaa inaan company hal company yani product uu soo saaro aan keensado haduu ahaan lahaa shaambooyinkii creamiskii waxyaali caraftaha all sida shirkadda loo yaqaan Nivea company waa shirkad soo saarta waxyaalaha cosmetics-ka ah nooc kasta yihiin marka shirkadaas oo kale baan target gareysanaya waxyaalaha aan isleeyahay waana kaga duwanaan kartaa suuqa taasaa kamid ah sidoo kale waxa way kow online shopping inaan sameeyo oo yani ganacsigan marka aan sameeyo yani uusan ahaan ganacsi ku eg only suuqi oo kale laakiin aan social media ku baahiyo oo kale oo aan sameeyo web page u sameeyo oo aan suuq maxaa dhahaa online ahaan ku iibiyo sidoo kale xalaan isleeyahay waa kaga duwanaan kartaa dadka competitors-kayga waxaa kamid inaan sameeyo yani free delivery يعني delivery maxaa dhahay free ah dadkiina ugu geeyo dadka hadda yani ahaan dad yani ganacsi online ahaan ku arkay oo gobolada ka soo dalbado oo kale inaan yani si free ah aan ugu geeyo sidoo kale waxa kamid ah kow ina waxa kale kamid ah waxyaalaha competitors-ka aan kula tartamay dadka suuqa ay kula tartamaya price strategy inuu lahaado yani productiga inuu lahaado price uu lahaado price maxaa la dhahaa limit garaysan oo yani maalinba aan price aan yani jaangoysan laakiin just price maxaa dhahaa productiga uu ahaado price gooni ah oo macaamiisha ugu bartaan how to make money يعني sidee baan lacag ku sameyn karaa waxyaalaha aan isleeyahay lacag wax ku sameyn kartaa waxa kamid ah kow in yani expenses-ka iyo waxyaalaha suuq kharashaadka maxaa dhahaa xarunteeda banaanka uga baxaya inay yaraadaan oo yani limit garaysnaan saawna waxyaalaha business failure-ka sameeyo waxa kamid ah in yani maxaa dhahaa expenses banaanka uga baxay oo ahaado yani wax over ah oo aad u badan marka aniga waxaan jecelahay inuu expenses banaanka iga baxaya oo yani yaraado kharashaadka soo galayna ay bataan sidoo kale waxa kamid ah waxaan lacag ku sameyn karo inaan number of employers-ka dadka yani aan shaqaaleysiinayo ee ahaadaan dad yar hadii yani aan dhaw xarun cusub aan furan dad badan baan dana shaqaale u qaadanaya dadka hadda waxay u baahan yihiin budget gooni ah marka waxaan rabaa yani si intuu ganacsi ka balaaranayo inaan numbers of employers yar aan qaato sidoo kale waxa kamid ah customer care ama customer satisfaction يعني سوق عن العقل فإذا أقدر ليه إن ضدك محل customers كي جاها أو أي إيمانية عن يعني عن هايو عن إسكسيدين عن إسك عن لومين وقت المرعى فنشي على البلانكي وحوايه horta contribution ka aniga aan rabo inaan ganacsigan ku darsado waxa weeye waa lacag 2500 ah lacagtaas oo noqonaysa installation ka aan maxaa dhahaa aan sile ganacsiga ku sii blow oo haday ahaan lahayd decoration ki maadaama meesha meel ay noqonayso waxa la isku qurxiyay lagu iibinayo dadka markay suuqi maxaa dhahaa meesha u soo shaqayn u soo shopping doontaan inay ahaato yani meel soo jiidasho leh oo qurux dadka indhahooda soo jiita يعني marka aan ku sameeyo maxaa la decoration qurux badan lacagta aan codsanayna waxa waaye waa lacag 5,000 ah 5,000 waxay iskugu jirtaa lacag yani aan rabo in aan alaab product ku dalbado iyo lacag aan leeyahay backup ahaan ganacsi ugu yani suuq igu imaan business failure xaloo yaqaan oo ganacsi uu noqdo ganacsi aan successful oo guuleysta waqti badan jira ma sinti location ka waa inchi وسوق قروا ومش قوينا. ما لها بهذا وحي كحرانتا يعني ضد كبابوليشن كأتارجت جريسنسيد ماشي أقول بدون إيمان يعني بكحرانتها
marka haddaan dhaho meel xarun yacni fog baan ka furayaa dad badanna halkaas aysan maxaa dhaa soo aadin hadda ganacsiga caqabad bay ku noqonaysaa marka waxaan rabaa inaan taargadgareeyo meesha population ugu badan garow ay soo aadaan si kastoo ay uga furan yahay cosmetics kala duwan inaan halkaa ka furo ayagana aan la dhiilgareeyo هذا الشيء إلى كذا نحسب ولا عاد إسكان معقول وعدو متقارن. ها. تستعمل كلمة الكمية ونيجي وكلوا باني يونيك أو كمية. صح. بس هذا هل كمية هل باني كورتي تستعمل بعد وايد. اسمه يعني ما كان. يعني هل بنا واحد يعرف ضد كأن مصر إني ضد يعني حسية كمبني يعني هل واحد يصور سعران إنه يعني استعمال يعني قد ما لين يعني واحد كل دون نطق استعمالان أو كله ضد كده ما أقدر ما حسينا يعني لكن هديك كمبني جوني لو برضه واحد يعرف تجناح سينو جناح سكوس على النقطة. العادة تقول ممكن شمبر لو ممكن شمبر مصروف على هيستعمل شنطة تكون هدي أقل من شنطة تكون هي شنطة كلها عادة تعامل على جناح سنة ها أبسوليت هدي الشنطة يكون لو العكية ها مثلا بس ها وصعون ما وصعونه يا ها يعني أنا أسكع العلني جناح سيكون صعونه يا رجيني يا competition كا سيبقى في العالم اللي جالس هذه same products أما same سكوت بالعكس سكوت هاي شو بينهم أول مرة هاي competition كان كان مليان products هاي waxyaalahaas la gareyn kartaa waxa kamid yani inaan bar strategy aan lahaado oo yani barayskaygu uusan ahaanin yani barays maalinba si isbedbedela oo ahaado yani barays limit garaysan oo dadku yani markay ogaadaan waxaas aad halkaas barays aad gidid hada waa lagu soo aaday laakiin maalinba barayskoon lagu barto suuq garow kale markaa wax u doonaysid maanta waxa soo gadatay hadaa biri doonto waxa shalay maanta soo gatay yani isla maanta isla barays kuma helaysid يا سيدي بالعرض اللي قدرنا كباستي waxaan sile horta mostly waxa weeyaan waa dumarka dhalinyarada rag iyo dumarba nooc kasta isugu jira hadda rag laftkooda way isku qurxiyaan Soomaa marka rag iyo dumarba marka waxaan jirin summary haddii aan ku sameeyo company-gan wuxuu bixinayaa adeegyo badan sida korontada in la xiro iyo biyaha oo kale iyo painting-ka oo ranjiyeenta ah korontada oo kale waa adeeg uusan qof qaban yani company uusan qaban individual hadda tusaale ahaan gurigan markii la dhisayay waxay keenaysan company gelin company-gaas waa company-ga koronto gelinta yani anu kama hadlayo neeg iyo korontada waarada waaweyn laakiin waxaan ka hadlayaa gudaha in qolo professional oo wixii saaran oo magac leh oo meel loogu hagaago leh aysan jirin sidoo kale biyaha kale goortii guri la dhiso waxa loo baahan yahay systemka biyaha kale in guriga la hagaajiyo waxa dhici kara qof maanta individual intuu yimaado la hebelo guri baan dhistay kaale i gali kadibna tuubo dilaaga ama tuubo uusan si fiican u adkeyn furmato oo meesha loogu talagalay uusan gaarsiin painting oo kale waxaan u maleynaya laftirkeeda shirkadda soo baxday laakiin waa ranjiyeen in guri qandaraaskiis la qaato company isku dhan weeye gudaha iyo dabadaba company-gan hadda wuxuu ka shaqeynayaa oo ugu talagalnay eriyadiisa inay noqoto garowe wuxuu heegsanayaa company-gan inuu gaaro gobolada dhan ku baaho in meel kasta oo magaalo ah oo koronto leh inuu ka shaqeeyo oo shaqaale loo sameeyo dadka howlgalaan wuxuu xooga saarayaa in uu dadka la soo xiriiro oo meel macquul noqoto la xiriiro xarun leh wuxuu u sameynayaa shaqo abuur u yahay dad badan oo xirfadlayaal ah laakiin bilaa shaqo ah waxyaabahan si dhigi karo wuxuu keenay awood buu ku lahaan karaa waxa kamid ah in deegaanka oo kale uu noqdo fursad halkaas oo ka soo gali karo dakhli soo galin karo xafiis la furo xafiiskaas kira laga qaato dad badan oo xilliga shaqeeya xafiis joogta laga helo waxaan u maleynayaa market analysis-ka iyo yani sababta igu dhalisay company noocaana markaan arkay dayacnaanta jidha qof baa qof dhaayro hebel kaale guriga korontadii maalinta hore xidhay waxba ka dhimane kaale qofkii soo dib damo soo noqonayn hadduu doono qofka guri dhan lagu aamiro oo alaab taalo wuxuu si qaadan karo yani company la isku haleyn karo
oo baahiyahaas dabooli kara making plan يعني حاجه يعني network laba nooc baan u diyaariyay making plan-ka in networking dadkii xilligaas anigu engineer ma ihi laakiin farsamo yaqaan baan ahay inta badan shaqooyinka farsamada gacanta dhan waan aqaanaa laakiin waxaan awoodda saarayaa la kulanka injineerada iyo dadka guryaha dhista aan u tago dhowr adeegaas aan bixinaynaa waa adeeg dhammaystiran waxa aynay qabanaynaa waxaan yani damaanad loo hagaagsan systemkan marka waxaan ku gaarsiin karnaa ku shaqeyn karaa ku socon karaa waxaysiin in la xayisiyo ama journal ha ahaato ama raadiyaha ama TV ha laga soo daayo ama network inta badan oo khadka ah management human resource maadaama anigu owner aan ahay oo aan leeyahay company-ga wuxuu sameyn doonaa maadaama anigu aan leeyahay laba qof buu shaqaaleysiiyay oo experience xafiiska ka shaqeeya labo wuxuu kaloo shaqaaleysiin doonaa 6 qof lixda qof engineer iyo laba qof oo engineerka tuubeysta ah iyo laba qof oo tuubooyinka xiro oo experience ku ah midda labaad wuxuu shaqaaleysiin doonaa qof engineer ah oo korontada si fiican takhasus u ah iyo laba qof oo la shaqeeya shanta bilood ugu horeeya wuxuu shaqaysiin doonaa insha Allah intaas hoos ku dhufo requirement-iga uu u baahan yahay marka xafiisku maadaama shaqaale iyo engineer ay meesha yimaadeen waxa loo baahan yahay gaari facility horta fududeeya shaqada tan guri hebel noogu imow ama guri hebel baa koronto la geeyay waa inaad shaqaalii gaari ku qaadi karaa xafiisku iman karaa meel degdeg oo lagaaga yar ku tii karaa shaqaale hawsh soo dhameey ku soo qaadi karaa elementiga lagu shaqeynay qaybta korontada qaybtii tuubooyin xirista iyo korontada oo dhameystiran oo fududeynaya shaqada office equipment-igi qalabka xafiiska oo aad u dhameystiran miiskii baa kamida kursaantii baa kamida wifi-gii baa kamida iyo warqadihii dheeriga office rent uu baahan yahay marka qol kira ah inta marka soo qabatay waa inaad u heshaa meel sal ah waxa noqonaysa xafiis financialka waxay dhan baa koobnaa qaybta ugu dambeysay financial markii aan codsaday wuxuu ahaa 5000 walow ay maanta dhan baanad iyo bir binsam lama soo qorqori karo laakiin estimation ahaanka aan diyaariyay oo nooca office-ka iyo qalabeyntiisa dhameystiran waa 1000 rentiga 3 months loo maadaama waxa dhici karta inta hore lagu baranayo in waqti qaadato in loo 3 bilood kale lacagta aad qayb iska diftaacid cash flow 2 months adeeg soo baxa oo dheeriga ah waa 5 kuna thank you anigu waxaan ku dabirayaa maadaama anigu hadda waxaan ku dabirayaa wada ganacsado horena waa laakiin waxaan ku dabirayaa experience-gay iyo skills-kayga aniga technician baan waxaan u malaynaa element aan farsamo aqoon waayo dhan u malaynaa way inta badan waxaan u malaynayaa aqoonteeda dad bartay macnaha xirfadeeda shahaadooyinkeeda haysta xagga korontada kale tuubeysto kale yani adeego kale aan ugu jirin dawaarka kale waxyaabo badan aan skills aan u leeyahay jira engineer-ka kale xagga fundiga kale wax badan baan صح صح horta waa run oo problemka koowaad jira waxa hebelba guriga hebel dhistay hebelba waa u xiray anna hebel iyo ama construction ko kale qaab kale qandaraas kale mar wada qaataan qof bay keenaan in badan cilad waa ka timaada marka dhinacaas oo kale waxaan sameeynaynaa runaantii la tashi badan oo injineeradan u yeerno xitaa haba qaadatee aan dhan percentage-ka waxaan iga siinaynaa shirkadda customer-kayga xilligaas kuleeyay waa shaqo aad u baahsan oo wali la aqoon waxaan noqonay target waxay noqonay injineerada iyo dadka guryaha dhisanay
doog waxay ka shaqeysaa samaynta barnaamijyada xayeysiinta iyo suuqeynta casriga ah ee loo yaqaan digital marketing service oo noqday maanta fagaaraha suuqeynta ugu ballaaran. doog waxay ka shaqeysaa samaynta xayeysiimaha casriga ee loo yaqaan digital marketing service waxayna fududeysaa in ganacsi kasta oo jira loo gaarsiiyo macaamiishiisa saxda ah ee bartilmaameedka u ah ee ku kala sugan dhammaan gobollada dalka iyo daafaha adduunka oo dhan waqti yar iyo kharash yar iyadoo adeegsanaysa heerka suuqeynta teknolojiyadda casriga ah iyo suuqeynta baraha bulshada ku kulanto ee loo yaqaano social media marketing oo maanta noqday fagaaraha suuqeynta ugu ballaaran adduunka oo dhan. doog intaas aan idin sheegay haddaan kaga baxano waxa way hordhaceeda serviceka ay qabato ama adeegyada ay qabato waxaa ka mid ah dhammaan kuwa halka idinka soo bixi doona email marketing campaign. runtii waa markaa fiilisaan dhammaan waxaan maleynayaa barnaamijyada xagga laga sheego oo dhan waa barnaamij ka duwan oo runtii ku cusub inta badan dadka halka fadhiya marka aan u sii gudagalno waxa weeye adeegyadiisa email marketing campaign baa ka mid ah Google Ads campaign baa ka mid brand la yiraahdo waxaa ka mid ah social media marketing campaign baa ka mid ah search engine optimization brand la yiraahdo oo fududeeyaha raadiyaha ganacsiga la yiraahdo waa ka mid ah brand advertising campaign baa ka mid ah sponsorship advertising baa ka mid ah digital advertising and consultancy oo ah la talin cid kasta oo baahan shirkadaha waaweyn kambaniyada aadka waaweyn la talin xagga digital marketingka. sidoo kale barnaamijka ka mid ah barnaamijyada ay doog hayso waxaa ka mid ah video marketing production oo iskugu jira dhammaan qaybaha halka idinka muuqda oo runtii aan hadda u baahnayn sharaxaad laakiin waxa weeyaan markaas aad u fiirisan qof walba fahmi karo halkaas in looga dan leeyahay professional advertising clips oo runtii intiina badan oo marka online ku jirtaan ama social media ku jirtaan aad arki kartaan. barnaamijkan runtii aan idin dhexgeliye waa barnaamij socda oo jira waa shirkad dhisan muddo hadda ku dhow waxaan jirnaa sanad iyo 6 bilood. sanadka ay 6 bilood runtii waxyaalo badan iyo wax weeyaan guulo badan oo aan gaarnay baa jira afwan graphic design oo kamid ah shaqooyinka qabano advertising design baa kamid ah postcard design baa kamid ah sidoo kale web design and development waxaa kamid ah samaynta website-yada iyo xayeysiintooda banner design icon design iyo blog designs runtii ugu waaweyn baan service siinaa. waxaa ka mid ah marka jaamacaddu barnaamijyo badan ay raadin jirtay oo waqti badan kaga bixi jiray in aanu iyadu soo package fiidiyoyadii xayeysiintii maxaa la yiraahdaa marka u baahan yihiin inay barnaamijyada gaar ka qabsadaan intaaba inaan ka caawino barnaamijkayga oo dhammaystiran oo package inaanu siino. sidoo kale startup business package baa ka mid ah waxa dhibaatada hadda jirta waxa weeye qof kasta oo ganacsi raba inuu sameeyo ama eedeeda haya waxa uu ku dhibtoonayaa in uu magaranaysa evaluation ku sameeyo wixii kaga bixi lahaa looga xagee ka raadisa xagee xayeysiin ka raadisa idaacad ma geysa TV ma geysa anaga marka waxaan sameynay barnaamij kooban oo startup business aan u bixinay oo dhammaan intiina halka fadhido oo dhan inaan fici doona oo runtii qofka kaga maarmayo inuu waqti badan geliyo xayeysiimo gaara iyo barnaamijyo gaara isagii waxaan leenahay xafiiskaaga fura hawsha anaga haway gacanta ugu hayna. sidoo kale ceremony package xafladaha oo kale waxaa jiri kartay dhibaatooyin ka jira kuwaas oo waxa weeyaan aan ugu talagalnay barnaamijyo kooban oo runtii si kooban aan ugu qaban doono. event management baa ka mid ah sidoo kale waxyaabaha aan kaga duwanaan karno cid kasta oo timaada hadda kulli ma aragno laakiin imaan doonta waxaa ka mid ah inaan sameeyno barnaamij loo yaqaan weekly and monthly report. su'aale shaqan ku qabanay xayeysiin baan ku sameynay xayeysiintaas isbuuc kasta markuu dhamaado waxa naga helaysaa report weekly ah. sidoo kale bishu markay dhamaato waxa naga helaysaa report bila ah aan kugu sheegayno cid aan barnaamij ku gaarsiinay inta uu ku gaaray feedback soo noqday iyo meesha uu ku gaaray. waxaa ka mid ah marka package-yada idin sheegayay barnaamijka anfac package baa la yiraahdaa waa service runtii aan ugu talagalnay barnaamijka idin qaab package-san startup package oo kale waa kaas ilaa 9 wuxuu ka kooban yahay adeeg ka kooban yahay runtii qaab hore loo arkay ma waa qaab aan in badan runtii aan ku soo guda jirnay. teamka hadda ka shaqeeya barnaamijkana dhammaan waa team IT ah oo runtii jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda ku soo bartay cilmiga IT-ga isla markaana khibrad iyo aqoon iyo kuna soo shaqeeyay qaarkood wadamada dibadda ka soo shaqeeyeen. marketka aan haysano market shortage aan haysano runtii marketkaygu anaga aad buu balaaran yahay waxaa ka mid ah social media marketing oo dhammaan intiina hadda halka soo istaagta qof walba waxa ku jira hadalkiisa inuu barnaamijkiisa u sameyn doono xayeysiin waliba TV-yada iyo raadiyaha dadku aad baa looga sii tagay intiina hadda haddaan weydiiyo su'aal ah goorma waxa weeye TV xayeysiin kugu dambeysay waxa laga yaabaa inaad goor heblo inaad tilaaka hadda ku yiraahdo goorma kugu dambeysay khadka inaad gashid oo hadda aad fiirisid online-kaaga qof walba wuxuu dhahayaa saacad ama daqiiqado ka hor. barnaamijka marka intaas oo dhan waa baahi jirta oo runtii suuq loo baahan Google Ads-kii documentary and TV production-kii
digital advertising digital printing waa isna kamid ah search engine optimization baa kamid ah website development and mobile apps development baa kamid ah intaas runtii waxaan oranay baahi jirto suuqa dhex taala sidoo kale anaga target market-kayga waa kuwee target market-kayga laba u kala saarnaa anaga waxaan u kala saarnay regular market iyo irregular market kuwa caadi ah kuwa wax weeyaan joogta ay kuwa aan joogta ahayn financialka waxa kamid ah kambaniyada telecommunication-ka waxa kamid ah sidoo kale regular-ka oo kuwaas waxa kamid ah political party-ga sports-ki iyo waxa weeyaan wixii kale la mid ah sidoo kale problem-ka aan xalinay waxa kamid ah in aanu runtii startup package qaabka ay isu sheegay dhibtii iyo waxa weeyaan fikirkii badnaa ay soo wajihi jiray inaan u soo koobnay oo barnaamij dhameystiran aan u hayno sidoo kale anfac package suuqeyntii waxa weeyaan lacagta ku bixi jirta badneed iyo waqtigu inaan soo koobnay sidoo kale xafladaha iyo waqtiyada la qabto in TV la raadiyo intaana financial u gudbin waxaan codsan lahaa in hal mar how to make money maadaama barnaamijkan cusub yahay barnaamijkayga sida anaga aanu ku sameynaa lacag sameynta lacagta aan sameyno marka ugu horeysa waxay ku xiran tahay in marka ugu horeysa horta aanu sameyno barnaamijyada tan sida digital printing photography video production web design maintenance web development mobile app development micnaheedu maxaa ka wada digital marketing dadku ku cusub yahay sax haddii aanu heli weyno cid barnaamijka nala fahamta runtii waxa weeyaan ay ku adkaato deegaanka in aanu barnaamijyo kale oo nakabaya runtii waxa weeyaan noo ah qaab badan aan ku sameyn karno lacag aan waxa weeyaan qayb ka yihiin shaqooyinkayga financial project-gayga runtii anagu maadaama fikradan ay tahay fikrad cusub muddo hadda 2 sano ku dhow aan shaqaynaynay sanad iyo 7 bilood meel aan shaqaynaynay anaga waxaan minimize kareynay istiraatiijiyada u dejinay qaab waxa weeyaan aan financial-kayga income-kayga iyo waxa weeyaan expense-ga waxa weey naga baxay intaba aan process kareynay laakiin waxaan jeclaysanay in aan waxa weeyaan si gaara inaan waxa weey u soo gudbino financial-ka u baahanahay su'aal hadda anaga project-kayga hadda waxa ka wadnaa magaalada Garowe xafiiskii aanu Garowe hadda ka fur lahayn maadaama boos uu main-kayga yahay xafiiskii aan Garowe ka fur lahayn runtii baan waxaanu diyaarinaynaa barnaamijkii iyo lacagta ku bixi lahayd at least hadda anaga lacagta aanu qiyaasnay ilaa 5,000 weeye 2,000 waxa weeyaan waa ku xisaabtamayna waa haysanaa 3,000 ee ka dhinayd baanu u aragnay in aanu ka heli karno barnaamijka shaqadoon laakiin sidoo kale anaga barnaamijkaygu wuxuu kaga duwan yahay barnaamijyada kale waxa weeye in anagu aan ogon lahay percentage share cid kasta oo runtii danaynaysa barnaamijkan in aanu share waxa weeye u ogon lahay barnaamijkan hadda ilaa 3 qof ka shaqeeya waa barnaamij runtii waxa weeyaan shaqeeya waa barnaamij nidaamkiisu dejisan yahay 2 sano ku dhowna uu shaqeynaya social media waxaan hadda intiina halkaas fadhida qaarkii waan aragteen waa ka muuqanaada Facebook-ayga hadaa gashaan runtii waxa arkaysaan barnaamijyo badan aan sameynay isbuucii la soo dhaafay bishii la soo dhaafay sanadkii hore runtii aad baan hadda waxa u haysanaa social media intiina badan waa aragteen ma filayaa ya maxaa tiri لكن شقوي أكتيفيتي أبغى أكتيفيتي كلوغدينا يعيد شغلة في سيارة بدنا كم مرة. أديان. سيرفيس كعقبتها صوفا ده عيد في الميديا كأنا ما أعرف دو سيرفيس كعقبتين وعان. بس ما نبي كنا إنت أولي كذا. ماي anaga horta barnaamijyo badan ahad aan qabanay way jiraan runtii anaga laftikayga start up baan ku jirnaa xaalad waxaan ku jirnaa stages teeda kale caqabada hadda aadka anaga noo haysta waxa weeyaan magaalada Boosaaso sanadii barka furan yahay sanadii barka magaalada Boosaaso ka furan yahay Boosaaso runtii waa magaalo u baratay in ganacsiyada waxyaalaha la cuno waxyaalaha qaab noocaas ma garanaysa laga hirgeliyay laakiin aan u badnayn in barnaamijyadan hore loogu dhaqaajiyo caqabada hadda haysta waxa kamid ah suuq inaan wali anagu aan la hirdamayno oo waxa weeyaan horta aan dadka fahansiinayno in barnaamijka aan ka gadno cid kasta barnaamij aan u sameeyno iyo qaabkii kullina runtii social media website-kayga Google intaba waa ka sameeynaa oo barnaamij diyaarsan ina master expansion مثلا Garowe timaadaan speaker hada Boosar ku filan oo adeegi nico Boosar ku filan naas hadaan Garowe Boosaaso sistemka beddelka waxaan Boosaaso meel dekada oo Boosaaso adeeg aad marka aan qiimo badan sameynay waxaan u aragnay Boosaaso hadda markii si loo fiiriyo dhammaan meelihii aan u baahnay oo si fiican baan u gaarnay laakiin markii aanu qiimeyn sameynay waxaan u aragnay Garowe inay horta 60-70 kaga habboon tahay Boosaaso saa darteed baa hadda rabnaa inaan target-kayga iyo magaranaysa iyo office-kayga aan balaarino xarka bitashka
badan garow la digital marketing bilaabay ama mid waa aadeen oo long time soo jiray competitionka waxaan kaga qayb qaadan karnaa runtii anaga waxa weeye innovation runtii waxa la abuur creativity baan wadanaa maadaama aan khibradna u leenahay aqoontiin aan hayno muddo aad ku shaqaynaynay creativity-gaasa waxay noo sahlayaan barnaamij kasta oo xayisiin oo laga sheekeynayo in anagu aan soo minimize karayno tusaalaha packageskaasa ka mid ah يعني برنامج كستو أنا هاينو أما عيد كست مقارنة سائلة تماد أنا قاب وحكي سمعنا innovation أو هالأبوه أهور الله أرك سؤالهان سوشيال ميديا فيديو ماركتينج كي ويب ديزاين كي جرافيك ديزاين كي لأن أيضا أنا قفكي وأوصل من مسكرين هل شقان وقدر جينا شغلاس كنت سيف ماني سيفتين لو ذي بقول علينا هل مرنا شقاور هذا بوصاص وحكي شقية إلا صدق خوفا كشقية iyo labada qof oo aniga ninkii kala ahaa oo asaasayaasha ahaa 5 qof baan ku nahay boosa garoowe hadda agency ba jooga laakiin garoowe hadda waxaan ugu talagalnay ilaa 5 iyo wax ka badan barnaamij markuu sanadkii jiro inay ka shaqeyn doonaan insha Allah hadii beedno waxaan moodaa waxaan ka doontaa dadka ku soo dhigay aad iyo aad waxa ay dadka financial soo bandhigaan waxaan moodaa inaa financial ugu yeeshaa financial كما شو تقول لكن وحويان أنا وحوقت النقل أديان برنامج كان رنتي أنا وبرنامج بدل ما كقيب قلي سيدا برنامج كمان دام وياه برنامج عصب وفكرة وياهي حاول ديجان كهرو وشري ديجان كان رنتي أي سنة مقارنة سالة هاي الدولة الرسمية أو بقدر كفيروه هو إلى لسه in aan ugu talagalnay inaan financial inay noo noqoto system project cidii marka tusaalahan gaar u doonaysa inaan gaar ugu sharaxno aan u sheegano income-keega waxaan soo galay waxaan u baahanahay laakiin hadda waxaan af ahaan u codsanay in barnaamijkeega inta kala haysano 3 kun naga dhiman tahay taana aan doonayno inaan barnaamijka uga qayb qaadano insha Allah waxaan mid social media hadda u saacaysay dadka hadda social media qofka page ku saabsan kartaa si musuuqa iyo raawaysa aadiya أنا waxaan uga duwanahay runtii waxa jira social media adiska qaybo kamid ah waxa jira runtii u qaabilsan su'aalahan Facebook waxa jira qayb u qaabilsan adiska waxa la yiraahdaa Facebook Business Center baa la yiraahdaa anaga barnaamijkeega intaan bilaabin ka hor waxaan sameynay inaan runtii link la yeelano qolooyinkaas aan si toos ah ula xirano aan maxaa isku sheegno lacag ku bixino policy-ga dhamaan aan ka gudubno inay imtixaamaan sidoo kale Google barnaamijka waxaan haysanaa barnaamijka Google Fundamental Certified baa haysanaa barnaamijka waxaan ugu talagalnay marka anaga budgetka goonida aan bixino iyo qaabka aan ugu haysan inaan ka duwanahay dadka kale adiga dukaan baa leedahay ama ganacsada tahay waxaan noo soo gudbisay barnaamijkaaga inta adiga page samaysan lahayd iyo kaanu ku sameeyay runtii farqi weyn baa u dhaxayn doona sababta u dhaxayn doona waxa kamid ah in anagu aanu si target ah u leenahay qolooyinka barnaamijka gacanta ku haya way wax badan noo fududeyn doonaan meel fiican aan rubnina u sheegno ama qaabkii aan targetka aan sameynana ay noo gaarsiin doonaan insha Allah anaga target market ku jirtay runtii regular iyo irregular bay haysaa cidda regularka oo kambaniyada ugu waaweyn yihiin kambaniyada ku jiray waxaan kula dhaqanaa qaab bila ah waxaan kula dhaqanaa monthly ah runtii shaqada ayaan bisha u qabanaa bishu markay dhamaato waxayna siiyaan wixii aan ku heshiinay in kuwa irregularka ana runtii marba shaqada ay nooga baahdaan baanu si ugu qabanaa magaranaysan joogta ahayn hay'addu waxay iibisaa biyo iyo sharaab iyo raashin iyo waxaas baashi halkan waa iga maqantay wax ma qoriyay baashi waa ii bixi weyday marka waxaan ka hadlayaa waxaan dalbaday halkan ay ugu qoran yihiin wixii ba hadda caad u wada garan maayo inaan aqriyo maahan ganacsigu wadadan ku yaala kooda uga soo wadada roorse baacada ganacsado waxay tahay waxa weeye waa sharaab iyo biyo iyo bur iyo caano iyo wax noocaas ah kasabarka iga gata waa waxa ugu dhow hoteelo iyo dad daris oo xaafado wadadii laamiga iyo meesha marta saas lacagteeda haddaan isku ceshaday adigu 5,000 bay noqotay
lacagtan hadda ku ganacsado meesha ku taala ha lacagtan haddaan adigu ku celcelsado adigu 500 meelahaas iyo wax ka sii hooseeya baan u malaynayaa dukaamo way ugu dhow yihiin ilaa xoogaa ay jira laakiin dukaankayga waa wuxuu uga fiican yahay oo aan silaadooda waa uga fiican tahay dukaamada waa uga soo horeeyay meesha in badan baan deganaa in badan haddaan deganaa dad customer badan baan leeyahay saasaan halkaan 5,000 dalbadan shanta kun wax badan bay iga bedelaysaa meesha oo aan ku ballaarsado talaagado oo aan ku soo dhigto wax saas oo badan bay iga bedelaysaa baan u qaata ilaa adigu 6 sano meelaha ما تالد مياتر انت هذا waxa meherada ay shaqeynaya meherada ilaa adigu kun meelahaas ay shaqeynaya waan dii la qiyaaso adigu kun meelahaas ay shaqeynaya idin bayaanshe buudo hadalku wuxuu yahay samalay baraaruga hawsha uu bareero kasoo baxa barwaaqada dahabkii oo birahana tabcada الكلام حتى بريدة